على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. wuxuu ku saabsan yahay maa jaa wixii ku soo arooray ku yimid fi khuluqi rasuulillaah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam akhlaaqdiisa min alsabri walxayaa'i walkaram, sabirkiisii iyo xishoodkiisii iyo karamkiisii iyo deeqdiisii nabiga calayhi salaam, xusnu lmucaamala wa sidqu lahja, mucaamaladii wanaagsaneed iyo runtiisii iyo runbadnidiisii sala allahu alayh wasalam, dalaaqat lwajh, akhlaaqda waxaasoo dhan baa la dhahaa. culimmadu waxay leeyihin xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee jawaamicda ah fii masalati alakhlaaq, afar xadiid baa lagu soo aruuriyaa oo qofka hadduu ilaaliyo uu aruuriyo ay hagaagayso akhlaaqdiisu. xadiidka koowaad waa xadiid abu hurayra, bukhaari muslim ay soo saareen. nabiga calayh salaam uu yihi: man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut. qofkii mu'min oo ilaahay aakhira rumaysan khayr ha ku hadlo, haddii kale ha iskaba aamusaba. bal qofka ha iska warran si hadduu yeelo, ama khayr ku hadasho ama ha iskaba aamustaba, akhlaaq ka fiican ma jirto. xadiidka kalena waa xadiidka tirmidi min riwaayati cali bn xusein, nabiga calayh salaam uu yihi: min xusni islaami اlmar'i, xusein ibnu cali, ina min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacniih. qofka waxa aan maslaxo iyo faa'iido ugu jirin adduuniya aakharaba inuu iskaga tago, islaamnimadiisa wanaaggeeda halkaasaa lagu helaa. xadiidka kalena waa xadiidkii bukhaari min xadiid abi hurayra, nabiga alay slam nin baa u yimid: awsini iyo dardaaran. markaasu wuxuu yihi: laa taqdab, ha caroonin. oo carada waa inficaalka iyo wax badan bay hadlaysaa iyaduna. xadiidka afaraadna waa xadiidkii nabiga calayh salaam uu yihi xagga mucaamilka dadka iyo in qalbiga laga sifeeyo xasadnimada, anaaniyada, nin jeclaysiga, qof naceebka, inaba aad qalbigaada ka ilaaliso, ka daaweyso. qowluhu calayhi salaatu wasalam, isagana bukhaari muslim xadiidkii anas, wa nabig alay slam: laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih. axadkiin iimaan lagama helin ilaa walaalkii uu kala jeclaado wuxuu naftiisa la jecelyahay. halka haddii aad gaadho ood walaalkaa la jeclaato waxaad naftaada la jeclaan lahayd. xadiidkii nasaa-i wuxuu ku daray min alkhayri oo khayr ah. de macnaheed cagsigeedina waxaa ku jira wixii shar ood naftaada la nici lahayd walaalka inaad la nacdana waa mafhuum. xadiidku manduuq iyo mafhuum buu leeyahay. wixii aad naftaada la jeclaan lahayd walaalkaa la jeclow, waxaad naftaada la nici lahaydna walaalkaa la nac. halkaa marka waxaa imaanaysa inaad haba yaraatay wax xasadnimo ayna ku gelin, oo haddaad walaalkaa aada wanaag iyo khayr ku aragto, ilaahayo u barakee iyo duca waxaan ahayn oo lagaa filan markaa ma jirto. inaad isgoddo oo qalbiga uu dhaawac kaa galo oo nicmada ilaahay samada laga maamulo aad ka xumaato, ilaahay qofkaa uu siiyey, xasadnimaa la yidhaahdaa. xasadkana naftiisuu gubayaa intuuna qof kale waxyeelin. nicamta ilaahaygii abuuray ee iska lahaa ee muncimkahaa buuna dagaal kula jiraa. waa sida isagoo le bay ka dhigan tahay: maxaad ilaahw hebel u siisay waxaas, oo ilaahay dood kula jiraba, maxaad hebel u siisay? marka waxaa lagu daawoobaa inaad ogaato nicmada ilaahay baa bixiya. adigooba waad jeclaan lahayd oo walaalkaa la jeclo waxaad naftaada la jeclaan lahayd, la nac waxaad naftaada la nici lahayd. marka waxyaalaha culummadu ay sheegaan waxaa ka mid a murabbiinta ah, culamaau tarbiya, taskiyatu nufuus. qofka haddii uu xoogo qalbigiisa uu shaydaanka waxaa kusoo rido xasadnimada, inuu markaaba yidhaahdo ilaah u barakee, yuu kaga daawoobi karaa. haddaad tirahdo ilaah u barakee, nafta iyada aheyd kabxuljimaax, yacni wixii ku jiray oo xanaf iyo foolxumo ahaayo nafta ku jiray oo kar ahaa halkaas ku baaba'aya. xasadnimada markaas waa baaba'aysa, daawadeedi oo taas. qof baad wax ku aragtay nicmo ah, barwaaqo ilaahay siiyey, aada majeeratay ood kamatay, intuu shaydaanka dhihi lahaa aad ka yar xumaan lahayd, haddaad tirahdo ilaah u barakee, reerkiisa, gurigiisa, alaabtiisa, caafimaadkiisa, cilmigiisa, wixiisa, madaxnimadii, ilah u barakee haddaad iska tiraahdo, cudurkii markaaba uu kaa baxaya xasadnimada. waa u duceysay, qof aad u duceysay mid xasdi, adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala maradkaas waa kaa daaweeyey.
malaa'igta waa kuu ducaysay cudurkaana waad ka bogsatay akhlaaqdii rasuulka calayhi salaam in badan oo ka mid a waan soo marray laakiin haddana musanifka raximahullah wuxuu rabaa inuu axaadiis dhowr ah uu inoo sardiyo o inoo kaxeeyo qaala xadaanaa cabaas bnu moxamed adduuri qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanaa layth bnu sacdin alfahmiy qaala xadaanii abu cuثmaan alwaliid bn abi lwaliid can sulaymaan bni khaarijata can khaarija bni zayd bni haabit khaarijaha waa taabici fuqahaa sabca fii casr taabiciin buu ka mid ahaa khaarijuhu zaydna waad arki doontaa waa saxaabi jaliil ah oo raggii qori jiray waxyiga nabiga calayhi salaam lagu aaminay ayuu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi dakhala nafarun koox baa soo galay calaa zaydin ibni haabit bay usoo galeen koox arda ah oo dalabatulcilmi ah dalabatulcilmigu salafka cilmiga ku dadaali jireen oo culummada iyaga raadsan jiray faqaaluu lahu waxay ku dhaheen xadinaa noo sheeg axaadiida rasuulillaah rasuulka ilaahi axaadiistiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam wax nooga sheeg oo xadiis noo ahri qaala wuxuu yidhi maada uxadiukum maxaan inii sheegaa maxaan iniiga sheekeeyaa oo xadiida kuntu jaara nabiga dariskiisii baan ahaa oo gurigeygi iyo gurigiisa waa isku dhowaayeen dadka jiiraankaana iskugu yaqaana dadka oo aqoonta qofka aad rabto jiiraanka umaad su-aali marka kuntu jaarahu dariskiisii baan ahaa nabigu fakaana idaa nazla calayhi lwaxyu midda labaad markuu waxyiga kusoo dego bacaa ilaya anuu dad iisoo diri jiray fakatabtuhu waxyigii baan u qori jiray lahu nabiga oo kaatibulwaxyi baan ahay oo aayadda u horray soo degtaba qofka qoraan ahaa fakunaa waxaan ahayn idaa dakarna addunya adduunyada markaan soo qaadno saxaabada haddaan nahay nabigoona ag fadhiyo adduunya haddaan sheegno dakarahaa macana waa nala sheegi jiray laakiin nabiga markuu adduunyada la sheegaayo wuxuu ka sheegay zuhdiga adduunyada laga zaahido inaan qalbiga adduunyada iyo maskaxda la gelinin in laga tegi doono daar faaniya oo dhammaan doonta ay tahay in la rabo in masracatu laakhira laga dhigto loo camal falo oo wixii aakhira lagu heli lahaa o janno ahaa adduunyada lagu camal falo dhinacaasuu ku wajihi jiray saxaabadu waidaa kama aamusi jirin waidaa dakarna alaakhira aakhira markaan soo hadal qaadnoon sheegnana dakarahaa macanaa waa nala sheegi jiray aakharo iyo waxay tahay in camalkii adduunyada lagu sameeyo un aakharo lagu haysto in khayran fa khayr wa in sharan fa shar khayr iyo shar wixii aad shaqaysatay unbaad aakhare ka heli daartaas ayada ee jannada iyo nicmadeeda iyo daartaa kale ee jaxiime iyo foolxumadeeda uu ka sheekeyn jiray rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waidaa dakarna dacaama markaan dacaam iyo cunto ka hadlaynana dakarahu waa sheegi jiray dacaamka macana maca anaga cuntada xalaasha ah aadaabta laga rabo cunideeda iyo waxa maaragtay ku saabsan aadaabu dacaam walakli washaraab cunto waxay ku saabsan ayaduna nabiga calayh isalaatu wasalaam saxaabada markay ka hadlaan jidkaa wanaagsan iyo tubtaa fiican buu ku toosin jiray fa kullu haada waxaasaan sheegeen ijmaaliyeen duuduubay uxadiukum waan iniga sheekeyni can rasuulillaahi baa iniga sheekeyn sala allah alay wasalam adduunyada suu nooga warramay aakhare suu nooga warramay cuntada iyo nolosha suu nooga sheekeeyey nabiga calayh salaam yaan iniga sheekeyn buu yidhi markaasuu ardadii u bilaabay oo oga sheekeeyey isnaadkiisa alwaliid bin abilwaliidkaas xadiidka ku jira alwaliid bin lwaliid can sulaymaan ibnu khaarija ka warinayo yaa layin lxadiid ah sulaymaan ibnu khaarijahana majhuul weeye kol haddii sidaa yahay sanadku muxuu noqonaya xadiidku daciif haddun mutaabaca helin qaala xadaanaa isxaaq bnu muusa qaala xadaanaa yuunus bnu bukayr can moxamed bni isxaaqin can ziyaad bn abi ziyaadin can moxamed bni kacbin اlquradi can camr ibn اlcaas camr ibn اlcaas radia allahu canhu asahmi caas binu waail baa dhalay ninkii dhibka badnaa ee gaalnimada ku dhintay isaguna saxaabi camar wiilkiisana cabdullahi bnu camar bu saxaabi bu ahaa qaala wuxuu yihi camr bnu caas kaana rasuulu llahi sala اllahu alay wasalam nabigu wuxuu ahaa yuqbilu kii qaabiliya biwajhihi wejigiisa iyo wa xadiidihi sheekadiisa calaa ashari lqowmi qowmka meeshaa fadhiya ka ugu shar badan buu qaabili jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam yata'alafuhum waa soo dumi jiray kuwa noocaasa sharta badan bidaalika qaabilidaa iyo weji furaantaa iyo sheekada ayaga uu la qaabilayo oo dadka kale ayaga uu ka maaratay leexinayo u leexinayo hadalka ayagu kusoo dumaya ka ugu shar badan ayuu markuu sheekey nabiga alay slam qaabili jiray oo ku halqabsan jiray oo weji furaan u muujin jiray oo warkoo dhanba sidaa isaga oo kaba dadka kaa ka fiican ayuu u qaabili jiray ujeeddadana maxay tahay yata'alafuhum bidalik arrinkaas kusoo dumaya
إن شرطا إيو نية حميدا إيو قلب سنانتا إيو waxaan dhan inay ka baxdo oo maxabba iyo mawaddo iyo ixtiraam iyo jacayl diineed inay gasho iyo nabiga saa u yeelay calayhi salaatu wasalaam oo inuu xoolo siiyana oo kusoo dumi jiray inuu sidan mucaamalo wanaagsan ula mucaamalan oo kusoo dumi jiray fakaana nabigu wuxuu ahaa yuqbilu biwajhihi wajigiisa iyo wa xadiithii sheekadiisa buu leeyahay calaya anigu ila soo qaabili jiray waa camar bin caas waxaa laga yaaba bilowgii hore inay tahay ama tawaaduc uu ka yahay in asagaba uu dee sidaa uu iska dhigaayo nabigaa sheekadiisa iyo wajigiisa ila soo qaabili jiray حتى أبو إلى سوق قابل أقوذي حتى ظننت إلى أن أملي أني أنيقو خير القوم قوم كبتك أو خير بدن بيننا هاي مركز دمو قدر كفهم الدونا إننا خيرية كينين إن قفك وجه الله السيو كريه الله قابله ورك الله تبحيه وجفران الله موجيه إننا معناه هذين دتك كلام كخير بدن ما لقيتش عليه حكمتك لا دعي كرتها مركز إلى أن أسكم ملاي أن دتك أو خير بدن هاي أي نبي عليه السلام التركيزية إلى سوق قابل الشيكي يوجه بقى فقلت وحاني يا رسول الله أنا خير ما أنا خير بدن أو مس أبو بكر ما خير بدن أبو بكر وحوه جاهد الصحابة ضمن يجتمعوا إذن أي سدارة أي حاجة هراء أي مرين أيام مركب وحوه يصير ما أنت شو ولا أبو بكر في عمه قال النبي وحويري أبو بكر ما خير بدن فقلت وحار يا رسول الله أنا خير ما أنا خير بدن أو عمر مس عمر ما خير بدن فقال النبي وحويري عمر ما خير بدن فقلت وحار يا رسول الله أنا خير ما أنا خير بدن أو عثمان مس عثمان قال النبي وحوير عثمان ما كان خير بدن فلما سألت رسول الله ما كان النبي سؤالي عليه الصلاة والسلام سؤالها سي وفصدقني ضبطي وإيش يا حقيقة جرتين وإيش يا فلو وددت وحانش على هذي بوليه حكوة تبع سريبيري فلو وددت وحانش على هذي أني يعني أقول لما أكون أنا هاني سألته كي ويدي بوسكي سوال الريح وقام ماشي وتاجيه مركا رقاص إنه نجاري كريم marka maxaad u weydiisay baan isiri buu yiri xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jira oo Yunus bin Bukayr oo saduuq oo yuqdi ah ayaa ku jira Muhammad ibn al-Hasan kaas waa saaxibu siyarki amir al-mu'minin fi siyar baa la yiraahdaa fi siyar baa dhahayo Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Madani laakiin asaguna mudallis weeye an buna xadiidka ku wariyay dacfigaas marka sagana xadiidku saas ku noqday قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله النبي عليه السلام أن أخذ ميبوله خدمت وحان أخذ مي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين 8 سنة وطبعا كيو نبي مدينة جوغي سوى تمنجرة أنس يا نبي قال له جاي ويسقر راعين ومسلم وهو يديسة يا أبو طلحة أمريكيس هو يديس قبايا أي أجي النبي مركو عطسده ويري إن الله يرى خدمة وعيسى قد قال جعلها الربا مركا ويل كاس على يدين كاس ما كو آمين كرر رسولك عليه السلام ويل يرى عقلي يود الجنان كل شيء بوها فما قال لي إمده بوله النبي أف إمده قد ولجيس وما قال إمده لشيء سنعت أن سمي لما سنعته محض السميسي ولا لشيء تركته أن كتغينا لما تركته إمده بوله سنعي يتجيتان كلا هذا اليوم ووحي أن أهين أوامر الشرع جاي النواهذه وحي الدين كصابسم ودين تما الله قبعه نبي هو عدينا وكعناننا وأمره وأشياء وكربه صلى الله عليه وسلم وعيرها الدنيا كصابسم وحي الدنيا كصابسنا أنا سوى لفت الكيسونين مكوسب بدن ما يهين أو دعدع بدن وخرط بدن وحوها نين مركه هرب التسكية وكذي جرته يديس كان أنا سيد الواويل لق بدن وعقل بدن أو أدور يسمي أمانته سيدي بونا النقضي marka wixii saas oo kala qofkii saas oo kala de wixii markaas halka mar dhalinyaranimo iyo carruurnimo iyo mararka qaar uu ilduufo de laga ma hadli karaba la siyama rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam oo akhlaaqdiisa iyo qiimihiisa iyo sabirkiisa la yaqaanay wa kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ahaa min ahsani an-nas kamidka ugu wanaagsan khuluqan akhlaaqda wuxuu leeyahay Anas wala masastu matabanin خزمة طابا ونوع حرير يركل اسمه حجر حرير يصوف يحرس كده مرة لقى سميه خزك ولا حرير خالصة ولا شيء وحش العسن كان الينا كتش العسن ما أركل من طابا من كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سعب كيسة ولا شممت وحوها سعب كيسة على عشاء مقارك أدبج العسنات وصمر النبي عليه السلام إن فيه سي حوق لها ولا شممت مودك سنس مسك قد ورجي مسك هو أذيب طيب وحي يدقون بقول يدقون ياي ولا عطرا وعطر وهو يدقون كان أذيبك يدقون بدنا من عرق النبي
nabiga calayhi salaam dhididkiisa sala allahu calayh waali wasalam. dhididku waxaa weeyaan shayga keena raayaxada jidhka ee qofka maaragtay uu la shiiro ee la uro ee la suuro in qabays iyo saabuun iyo barafuun ku dhex wada mooyeene dadka aadan ku dhex noolaan karin. laakiin nabiga calayhi salaam ilaahay suu u karaameeyey fiiri dhididkiisibaa wuxuu noqday adyabu diib wax allaala wixii udgoon oo dhanba dhididkiisaaba ka udgoon sala allahu calayh waali wasalam. marka ilaahay baa karaameeyey oo maaragtay sifaadkiisa iyo abuurkiisaba dhamaystiray sala allahu calayh waali wasalam. qaala xadaanaa maca dalika buu haddana diibka isticmaali jiray calayhi salaatu wasalaam markuu helo. qaala xadaanaa qutayba bnu saciid wa axmed bnu cabdata huwa dabiyu walmacnaa waaxid. labadaba xadiidka ay isla warinayaan macnahaan waa iskaga mid hadday rabaan lafdiga ku kala tagaana meelaha qaar lakiin macnihii isku meel buu tegi. qaala waxay dhaheen xadaanaa xamaad ibnu zayd can salim alcalawi can anas bni maliki radia allahu canhu abu xamsata albasri can rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam anahu rasuulku kaana waxaa ahaa cindahu agtiisa rajulun nin baa nabiga ag fadhiyey bihi ninkaasi xalqada iyo majliska fadhiyey bihi waxaa ku sugnaa oo jidhkiisa ka muuqdaya maryihiisa atharu sufra zacfaraan raadkiisa. sufradu waa zacfaraanka iyo huruudka iyo haweenka ismaryaan weeye. marka zacfaraan baa ninkaasi yaa ka muuqatay maryihiisa iyo jidhkiisa iyo loomana ogolo ragga inay isticmaalaan zacfaraanka iyo huruudka iyo oo ay marsadaan sida haweenkao kale ama cidiyaha ama jidhka ama madaxa iyo lama ogolo iyo maryaha gaar ahaan iyo walidaalika markuu cabdiraxmaan bin cawf nabiga ku arkay isagoo zacfaraan raadkiis ka muuqato jidhkiisi waa kii la yaabay ee yidhi mahyab waama waxaad ismarisay ee kugu yaalla. markaasuu wuxuu yidhi nabi allow naag baan xaas baan islaam baan guursado aroos baan kasoo yaan ahay aroos baan ahay oo gabadhii waxay isku soo cusburisay ee arooskeeda ahaa wixii baa soo gaadhay. marka ragga looma ogoleen. qaala wuxuu yidhi wa kaana rasuulullah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa laa yakaadu kaan sigin oo ku dhowaanin yuwaajihu axadan qof inuu la qaabilo bishayin wax yakrahu uu nacayo lama qaabili jirin hadduu wax kohdo qofka kale lama hortegi jirin. falamaa qaama markuu ninkii kacay qaala lilqowmi dadkiibu wuxuu ku yidhi low qultum lahum haddaad ku dhihi leedeen iyo dac iskaga tago ha dhaafo haadihi sufra sufradaa rag ooma fiicna loomana ogolee ka tag haddaad dhihi leedeen u sheegtaan bal u sheega idinka iga gaadhsiiya. marka bacd axyaana nabiga waa sheegi toos buu ula hadli jiray oo waa maxay iyo waxaan iska bedel iyo mahooyadaba xataa ku amartay mararka qaar ragga qaar oo la keri waayey ama canaan u baahday hadba maxalka ayay arrintu u taagan tahay. oo haddii qofkan uu yahay qof ishaarada ay ku filan tahay ama qof kale uu kaaga filan yahay ama ma ahee dee aad si kale oga ilaalinayso inaad hadal ku tiraahdo waa arrimo kale oo inta badan maabaalu aqwaamin iyo dad maxay sameeyaan iyo maxay rabaan iyo maxay saa u yeeleen iyo dadku si guud buu u hadli jiray. mararka qaarna waxaa weeye si toosa iyuu u hadli jiray saxaabadiisa oo qofka ku arka aan wanaagsaneyn war waxaan iska bedel waxaan saa iska dheh saasuu dhihi jiray. kutimihiisa dhaadheer buu dhihi jiray iska hagaaji maaragtay shaarubta ku baxda u dhihi shaarubta iska hagaaji. marka waa hadba xaaladda iyo kalsoonida uu ninkaa uu ku qabo iyo haddii ay maqaamka uu munaasib u yahay gaar ahaan qof keligiisa isaga hadday wada yihiin ama haddii meel majlisa la fadhiyo qof dad dhex fadhiya in lala hadlo tacyiir bay ceebeen bay noqonaysaa. markaas oo kale waa iska ilaalin jiray rasuulka sala allah alay wasalam ilaa fi xaalaat naadira mooyeene oo dee maxalka uu keenay oo qofka asaga ah uu u baahan yahay canaan iyo zajri iyo in meel adag lagaga soo haro. misaakul cashiira mari doonaa. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي عبد الرحمن الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها عائشة قالت waxay tihi لم يكن رسول الله رasuulka ilaahay muunan ahayn عليه الصلاة والسلام فاحشة mid فاحشة xumaan lagu abuuray faaxishata waxaa weeyaan akhlaaq ahaan qof xumaanta lagu abuuray qowl iyo ficil midna ma ahayn walaa mutafaxisha mid xumaanta iska keenkeena oo mutakalif ah iska keenkeenana ma ahayn iskamana keeni jirin ilaahayna ooma abuurinba xumaan iyo inuu xumaan ku hadlo ama sameeyo walaa sakhaaba muunan ahayn mid qaylo badan fil aswaaq suuqaqa ka dhawaaqa suuqa waa meelaha dee shaydaanka uu calankiisa sudho in la hadlo oo la caytamo oo la qayli oo la dhawaaqo ma fiicna in adkaar lagu galo oo lis astura fiican walaa yajzi ma gudi jirin nabiga kuma abaalgudi jirin bisayiati xumaan lagu sameeyey asayiata ama bisayiati xumaan kuma abaalgudi jirin asayiata xumaan lagu sameeyey haddii xumaan lagu sameeyana xumaan kuma abaalgudi jir wuu iska cafin jiray walaakin yacfu waa cafin jiray wayasfax waa iska saamixi jiray nabiga calayh salaatu wasalaam isagoo loo ogol yahay sharcan in qofka wuxuu ku sameeyo uu u jawaabo ama intuu yeelay uu yeelo waa u bannaan tahay wajazaau sayiatin sayiatu miluha sayaala sayaa iyadoo kale ah ayaa maaragtay
وبنانتها جزيه ذوي سيئة مثلها لكن محو إلهي كدري فمن عفا وأصلح فأجره على الله ninkii iska cafiyo oo iska maartay saamaxa ajr buu helayaayo ilaahay baa maartay jecel cafiga saamaxida قال حدثنا هارون ابن إسحاق الهمدان قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ما قراع بيده قعنتي شرفت بدنيت شيئا وحنكم ما قراع قط وليس إلا أن يجاهد في سبيل الله إنه جهاد أيوه وجدك إلهي وكجر مويين جهاد على وسكور رمضان ولا ضرب مقراع بعد وإجمال بعد التفسير ولا ضرب خادم مقراع شغاليس يا خادم كيس ما أجوجي الضميه مركبين أنت شغالوا وين وحاء الضميه يعني خدمية كوا حرقه وخدمية ويجرين وصحابته أيون قيمة بدن وأنس وكمدها ولا امرأة هويرين ولي مقراع رسولك صلى الله عليه وسلم قعنتي سبحان الله قال إنه الجهاد كجر مويين جهاد كلفت الكيس بعد التطبع والاستقراء وحيراها النبي عليه الصلاة والسلام سيرة ذي سمك اللي راعي وحاول العديي أو الهلي هل ننا قال ذي كمذا إنه النبي عند سكندي لي صلى الله عليه وآله وسلم لين كاسنا وحال إلى هذا أبي ابن خلف بالله أخو أمية ابن خلف أبي ولا عليها أمية ابن خلف سوى بدر بالود لي وأكيد مركا نحرة انتو مارتي نين أي قرابة أي صاحبها يا صحابي هذا بعينه مجان جريء بحي أي لدري جري بلال بن الرباح رضي الله عنه وأبهدل جري وقت الإسلام وصاق علي أيها كون هرينيكي ولومين ربا والله بحين ربا أكيد قيليه دين أفل بدي انتو الواقدي جري لا نجوت إن نجا أمية أمية ما تهدو بدباده وأتانا بدبادين بينه مركز دين أفل بدي صحابي مركز عبد الرحمن بن عوف بارك إنه بحية ضبعي أما أبي نبي عليه السلام قالوا الوجي رو يسوق بلا سو أول محمد وكاي نبي صلى الله عليه وسلم سجى سوى الرأي وسوى دونتي وربنا يبيل حربده ونبي وتي عليه السلام وإيش أنتوا كجريه مدحة مساحة الأفريسية مرجع تاهم بعد عليها قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت عائشة وحيت ما رأيت الرسول الله نبي عليه الصلاة والسلام ماركن منتصرا سوى أرق وصنايا من مظلمة ظلمها لا ظلمي قط وليس سوى أرقصني ما أركن ما لم ينتهك هدان لقررين أو لقدعين من محارم الله وحيال الله حرمه تعالى كنا شيء وحكمه حيال حرام هذا لقدعين هذه منكر كلا أو أسوأ المستمر يا وحمان النبي هو منكر لكن تيسا سجى نفتي زوج كعفي وحكلوا شريعة الدين تكمل هدان لقدعين فإذا انتهك هذه لقدع عصر من محارم الله إلهي محارمته وحرمي شيء وحكم كمذا هذه لقدعه كان نبي وحوها حد بالقلي حدود كمذا قصاص بالقلي كان وحوها من أشدهم ذات كمذا أو قدرا في ذلك الرنكاسي قضما كعراض في كعروناي آد بأو قدر النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس في ذلك قضما حق عرضه وما خير لما خير قليل بين أمرين لبشي النبي لما خير قليل لبشي أمين السنان سمين توضة إلا اختاروا حدود جري أيسرهما كفضوت ما لم يكن هدونا هاي مت كافضوت ما ثمن دبي لما شيء هذا النبي يسوق قبته متك فضوض مدورين عليه السلام إنه قاديد راعي إنه اللقيه كيف فضوض إنه قاديد راعي قاديد في الجر صلى الله عليه وسلم هذا يسوق قبتان هذا يسوق قبتان مثلا هذا مساجد أسعة كاير نير إن ترى لقطة حساباني إن جارية كتكت يا أيسرة كاسافي يعني عاير تكتو صفقة رسيفة رسالة جزء قرآن آخر الزم ماشي كي كلا ونحن صوب مسلينا وصل سيجينا مركا أيسر كلا فيرنا يعني إلهنا سبحانه وتعالى سود النبي أنه نشر حديث كي دينكي مكان كتجي لو كتجي سو عليها والله ما يستوي له ولا حق أي ريحة ين والدامين أيين إن الله لقدي من تعذيب هذا نفسه ساسوي النبي عليه السلام إلهي ما بربابا إنك دبعتنا نرب عباد الله يمو هذا بسيط أو سهلنا ولا يمو إنه قفك ونفتي سعادة بإلهي دم كماله ما نربه سبحانه وتعالى مركا أيسر كفضوت ينبغي دورنش هذه لكن متك فضوت طريقة فضوت ويا طريق دبي حماني اللي جرونا خراب هذه دي تو فعلين وكتجي ترى متك علص شريعة إمارة وافق سبق قادنجل صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المكدر عن عروة عن عائشة قالت وحيت استأذن رجل على رسول الله نبى النبي إذا ويديستو يرمصاقلا بناك تو استاجي وعيانا بن حسني مخربا بن نوفل ضد بيشك شجان رجع عربتها يا ضدكاية إسكاي القلف سنة مرة قاركودنا إيمانك أونا حب وقلين إلى مرضى بار ما يكون قارتي وحلا بدنا للسيء والسود ويه أي دين تجعل هذين
marka ma soo galaa buu yidhi ninka asaga ah waana anigu bay leedahay caaisha cindahu nabiga agtiisaan joogay waan ag fadhiyaa faqaala wuxuu nabigu yidhi bi'sa ibnulcashiira ma maqlayo asaga ma maqlayo bi'sa waxaa baas leh ibnulcashiira cashiirada waa qabiilka wiilkooda almaqsuusu bidami huwa kan hadlaya oo ugu xuna oo ugu baas badane soo daaya aw akhul cashiirati cashiiro qabiilku ka dhasho dhan baa intii la aruuriyey yaa waxaa la yidhi wax ka la dhashay oo walaal u noqda kana ugu xun uma adina lahu markaasuu haddana u idmo yidhi soo daaya fa alaana markuu soo galay alaana lahu lqawla nabiga hadalkiibuu u jilciyey waa nin daahiye ah ninku cuyeyno binu xusn hadduu yahay nin kale hadduu yahayba haddii saa la yeeli waayo lasoo dhaweyn waayo afxumo iyo dacaayad yuu sii daynayaa buuq buu furi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa iska soo dhaweeyey alaana lahu lqawla hadalkii u jilciyey falamaa kharaja markuu baxay yaan qultu waxaan ihi tiri caaisha waa yaaban tahay yaan rasuul allah qulta waxaa tiri maa qulta wixii aad tiri markii hore soo galaya waa kaan tiri reerkiisa o dhan ba asaga u shar badan qaws uu yahayba waa saasaad ku tiri uma alanta lahu lqawla hadalkii baa u jilcisay oo marxaba iyo soo dhawow iyo waa kaa tiri soo dhawaysay waase faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa caaisha ina min shari nnaasi dadka kuwa ugu shar badan man tarakahu nnaasu dadka midkay ka tagaan weeye oo wadacahu nnaas dadku ay ka tagaan itiqaa'a fuxshiyo xumaantiisa ka cabsashadeeda kaas weeyaan waa kii hebelahay aan ugu taabanin aan ugula hadlinayo midkii la yidhaahdo kaasaa dadka ugu shar badan bu nabiga alayh isalaatu wasalaam marka faraha ka qaada soo dhaweynaynaa soo dhaweyntaa markaa iyo arrintaasi waxaa la dhahaa mudaaraad baa la yidhaahdaa mudaaraadku waa arrin fiican laakiin waxaan la ogoleen mudaahanaan la ogoleen mudaahanada waxaa weeyaan inaad tanaasul adi samayso diintaadi inaad ka tanaasusho oo aad wax ooga tanaasusho ninkai asaga ahaa yani sharkiisa adoo ka baqaayo iyo hebel weyaan ama wax ku dhahaa ama ku dacaayadeeya yaa diintii oga leexatay isagii baa iska raacdo hayaraac baad noqoto meeshuu rabu kula galay taa mudaahanaan la dhahaa wadduu low tudhinu fa yudhinuun bu ilahay leeyahy lama ogolo inaad loo leexdo laakiin mudaaraadka way bannaan tahayoo waa qofka asaga ah inaad xooga wajiga u furto soo dhawayso wax siiso laakiin meeshaadi iyo mawqifkaadi waxba iskama bedelin mawqifkaadi waxba iskama bedelin bal asagaad rabtaa inaad kusoo riddo dabinka oo diinta kusoo jiido oo aad wanaaggii iyo khayrkii aad usoo jiiddaad la rabtaaba marka mudaaraadka waa la ogoliyay qaala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa jumeyc ibnu cumayrin jumeyc ibnu cumayr ibn cabdiraxmaan alcijli qaala wuxuu yidhi ambaanaa waxaa noo warramay rajula min bani tamiim nin reer bani tamiima min waladi abi haala waa lagu soo noqo marka afaraad zawja khadiijata khadiija lakiin waxbuu ku daraa mar walba khadiija zawjkeedii abi haalahaasi awlaaddeeda mid kamid ah ayaa ii warramay wayuknaa aba cabdillahi baa la dhahaa kunyadiisa can ibni abi haala wiil ina abi haala ah oo hindo la yidhaahdo can ilxasan binu caliyin buuna ka wariyey xasan binu caliy bn abi aalib qaala wuxuu yidhi qaala alxusein marka markii hore waxaa soo marray hindo inuu xasan u warrami jiray kadibna xasan intuu xusein wax ka wariyey baa hindihii ayaa ka warinaya can alxasan binu caliy qaala xusein baa wuxuu yidhi xusein binu cali walaalkiisa oo ka yar wey sa'altu abi aabbahi cali bin abi aalib weeyaane yaa waxaan su-aalay can siirati nabiyi nabiga siiradiisa calayhi salaatu wasalaam siiradii nabiga inta marka ziyaadada ee abi haale iyo xasan iyo ka maqan waa intuu xusein cali ka maqlay wey can siirati nabiyi sal l slam nabiga siiradiisii ku saabsaneed fii julasaa'ihi dadka la fadhiya si oo la dhaqmi jiray faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal slam nabigu wuxuu ahaa daa'ima albishri weji furfuraantiisa miday daa'im tahay weji furfuraantiisi iyo dabeecadiisa macaan sahli lkhuluqi akhlaaqdiisana ay sahlan tahay oo macaan tahay layin aljaanibi dhinaciisana uu jilicsan yahayoo aan adkayn yani khafdu ljanax dadka loo turitaanka wey layin ljaanib dhinaciisaa jilicsan yani dadka u turi jiray laysa bifadin xagga carabka mid adag ma ahayn oo qallafsan walaa qaliidin ma ahayn xagga qalbigana naxariislaawo qalbi adagna ma ahayn nabiga calayh salaatu wasalaam walow kunta fadan qaliida labada waa laga anfiyey lanfaduu min xawlika ee naxariis iyo jileec baa nabiga lagu tilmaamay fa bimaa raxmati min allahi linta lahum walaa sakhaabin muunan ahayn nabiga calayh salaam mid buuq iyo qaylo badan suuqaqa iyo meelaha ka dhadhawaaqa walaa faxaashina ma ahayn mid fuxshi iyo eraya xunxun ku hadla walaa cayaabin mid ceebeeya dadkana ma ahayn walaa mushaaxin ma ahayn nabiga calayh salaatu wasalaam mushaaxa bakhaylka waa la yihahdaa qofka bakhaylka ah ee xoolihiisa ama wixii ilaahay siiya ama cilmi iyo nasiixaa la bakhayla ayaa mushaax la dhahaa walaa mushaaxin ma ahayn mid bakhaylahoo wixiisana ku bakhayla dadka kale waxoodana weliba si isku daya inuu celiyo yataqaafalu kaana huwa yataqaafalu nabiga calayh salaatu wasalaam waa ishalmaansiin jiray camaa waxa uunan laa yashtahi rabin wuxuuna rabin rasuulka calayhi salaam
laakiin uu arkaayo maqlaayo waxaan ogeyn buu iska dhigtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam tatabuca waxaasaa la yidhi waxaasaa lagu sameeyey hebel anuu ii tashaday hebel baa aniga iga sheekeeyey iyo waxaa haddaa si raacraacdo iyo dad baa igu taaganta ku hayso marka dambe shoog baa kugu dhici oo amraad nafsiya psychology ahaan baad u jiranaysaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam yatagaafal kaanahu laa yacni kaanahu laa yacniini sidii shaaciri dhihi jiro kale qofka marka waxaan dhihi jiray buu yidhi shaafici miyuu ahaa aniga iima jeedo wax qofka ku wada anin maaha marka yatagaafalu camaa laa yashtahi wuxuuna nabiga jecleen oo maqla ma laga sheego ama wixii saas oo kale ah waa ishalmaansiin jiray oo waxaan waxbaba ka ogeyn oo iska dhigi jiray oo waxay dhahaan qofka inuu yahay muqafal ma fiicno muqafal caqli gaab ah oon hadallada iyo muxuu aha hadalka dulucdiisa aan aad u fahmi karin wararka maaragtay sarbeebka ah ama hadallada maaragtay duurxulka ah ama waxyaalaha maaragtay laxniga ah laxnulqawlka qofka inuuna waxba ka fahmayn uu muqafil yahay ma fiicna haddana waxaa fiican inuu mutaqaafil yahay in waxaa fiican yahay mutaqaafil muqafil ha noqonin laakiin mutaqaafil noqo qof wax garan baa tahay fahmi laakiin ishalmaansii isdaad raaci intaa isku taagi laheed hadhow lagaa dhibaato noqon lahayd walidalika shaafici wuxuu dhihi jiray allabiibu lcaaqilu huwa alfatinu lmutaqaafilu qofka labiibka ee caaqilka waa kee waa qofka fadinka ahe dareenka badan ee fahamka badan wax fahmi kara haddana mutaqaafilka ah ee wax ishalmaansiiya aad ba maarata inaad iskugu sii mashquuliso waxaan ogeyn baa iska dhigta caadi baa iska tahay sidaasaa fiican biley yatagaafalu camaa laa yashtahi walaa yuyisu nabiga ma quusin jirin minhu xaggiisa raajiyihi qofka rajeeya laa yuyisu minhu xaggiisa nabiga ma quusin jirin walaa yayasu yasi waa quusidka yuyisu minhu ma quusin jirin raajiyihi dadka rajeynaya qofka raje ka qaba nabiga ma quusin jirin ha kusoo login iyo maaragtay ma dhihi jirin walaa yukhayabu ma hoojin jirin fiihi nabiga calayhi salaam qofkaasi rajada ka qaba ma hoojin jirin waxlaan ma dhigi jirin qad taraka nafsah naftiisa nabiga calayhi salaam wuxuu kala tegay min alaain saddex shay nabiga naftiisa waa ka ilaaliya waa kala tegay almiraa dooda iyo muranka iyo qajajacda walikhaara badinta adduunyada iyo xoolaha iyo mashquulkeeda iyo aruurinteeda iyo waxaana waa iskaga tegay waa nacay adduun wamaa laa yacniih wixii aan anficaynin oon anficay wax u taraynin oon faa'iida ugu jirinna isagana wuu iskaga tegay nabiga sala allah alayh wasalam wa taraka annaasa dadkiina wuxuu kala tegay wuxuu kala tegay oo ka dhaafay oo ka ilaaliyey min alaain saddex shay yuu dadkana ka ilaaliyey kaana wuxuu ahaa laa yadumu axadan qofna ma caayi jirin walaa yaciibu mana ceebeyn jirin walaa yatlubu cawratahu cawradiisana marha raaci jirin ceebihiisa walaa yatakalamu ma hadli jirin ilaa fii ma rajaa hawaabah wixii hawaab iyo ajir uu ka rajeynaya mooyeene iskama hadhadli jirin wa idaa takalama hadduu hadlana adraqa waxaa foorarin jiray madaxooda julasahu dadka la fadhiya markuu nabiga hadlaya calayhi salaam haybada iyo waqaarka iyo ixtiraamka iyo sida nabiga loogu weynanaya qulubtooda ay ugu weyn tahay saxaabada markay fadhiyaan oo asagoo hadlaayo way wada foorarsan jireen kaanamaa calaa ru'uusihim madaxooda waxaabaad moodaa atayru shimir baad moodaa inuu saaran yahay madaxooda shimir baad moodaa shimir meel dhaqdhaqaaqaysa kuma istaago meel degan oon dhaqdhaqaaq lahayn ayuu ku istaagaa shimirku walidalika waxaa la sheegaa cabdullaahi ibnu zubayr radia allahu canhu intuu kacbada tago oo dawaafo yuu tukan jiray 2 ragcadood markaasuu sujuudi jiray sujuudda markuu sujuudo muddo dhan shimiruhu iska buubuubayaan way buubuubi waxba intaas iska fiirinayaan oo taxadar bay ka galayaan marka shimirkaa deena ku degi jiray waxaan isagaa wax bini aadan ma aha qori meel yaalo qodaho weeyaane intay dhahan bay ku istaagi jireen marka shimir meel dhaqaaqayso kuma istaago waa foojigan yahay walaa yadribu markaa cala ruusi mutayr fa idaa sakata hadduu nabigu aamusana oo hadalkii uu waday u dhammeeyo takalamuu saxaabada marka waa hadli jireen laa yatanaasacuuna ayagoon murmaynin cindahu agtiisa alxadiida xadiidka ku murmaynin ayagoon sheekada ku murmaynin ana hadli iyo ida iyo isboobaynin midkii u hor hadlo ma loo dayni waman takalama qofkii hadlaa cindahu nabiga agtiisa ay ansatuun lahu u dheg raaricin jireen dhammaantood xataa yafruqayn oo ka bogo kaasaa la dhegaysan haddana midka kale la dhegaysan sida dadka qaar oo kale maaha shan ba hal mar isla hadli oo midka hadli iyo ka dhegaysan iyo la kala fahmayn marka sax maaha waa inuu mid hadlo laga dhegaysto ka kalena uu hadlo qofkii hadli hadal in laga sii geliyo ma fiicna xataa yafruqa xadiiuhum ilaa sheekadooda uu ka dhameeyo xataa yafruqa ilaa uu ka dhameeyo xadiiuhum sheekadooda cindahu nabiga agtiisu xadiiu awalihim ka ugu horeeya sheekadiisa wey markuu nabiga bogo ka sheekadiisa la dhegaysan waa midka u horeeya xadiiuhum xadiidkooda iyo warka ay markaas dhegaysanayaan cindahu nabiga agtiisa hadiiba joogaan xadiiu awalihim ka ugu horeeya xadiidkiisa weeyaan kaas la dhegaysan yadxaku waa qosli jiray nabiga calayhi salaam mima yadxakuuna minhu waxay la qoslaan laakiin qosolkii nabiga muusood buu ahaa
ويتعجبوا ويابي جري مما يتعجبون منه وعيها إلى يابان وحي تعجب يلا ياب له سيدا دتك أو يابان بو يابي جري ويصبر وسبر جري النبي عليه السلام للغريب وقفك غريب كاه النبي عليه السلام يدقن كيسا إلهي وحسيي أو كرامة يقدر النبي أن أقول أعراب البادية يقف سلامتك عصبيه كوا نوع عصا كلا وكسب رجل النبي على الجفوة قلف سنانته هذا في منطقه هذا الكيس وقلف سناده ومسألة سؤال شيسا قاب هو يدير وقلف سناده سؤال أرق هي قاب أرق هي وهل رجلين نبينا عليه الصلاة والسلام وكسب رجلي وأنا جري حتى إن كان وحوبها أصحابه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حيا هايين لا يستجلبونهم كوا سود جيدايا هايين نتك نوع عاصو كلا نتك قربات إيو في البادية إيو ويكان يجري وكان النبي وحنا هو يديه هذا اللي بيجري إلا يا النبي وكحشون أيام أو حيا أنا قدر كيس الأجي لكن كم إنه لا عذر داري بأجيهين أو النبي يقول عذر داري عليه الصلاة والسلام الله صبري هالكاس يقول حيكفر حجرين لين أعرابي أنتو إمامه سؤالا يجي كحشون النبي قال السؤال وين إنه ويديه ده النبي قال وكجواب أيوه دقيسن هكذا أن علمي فائدة كهلام بكفر حجرين وكي مدي يا رسول الله رجل يحب القوم ولما يلحق بهم نين ضد شعلان ضدك وجعلان أن سوق أن جاري كرين كورن أنت مكسوحي المرء مع من حبه قفك وجعلانه معي صنب وهان أنا سوا كيسا أنا وفرحي دي جري وحان كفر حمال تصان فرح ولا يوم فرح بيه معايا فإني أحب الله ورسوله إلهي رسولك جعل ويقول وحوله كما قال ويقول وحولي جري نبي عليه السلام إذا رأيتم هذا أركتان طالب حاجة من حاجة طلبها يضم إيا مرات رباه يطلبها الرادين يا حاجة ديسا فارفدوه أكالمية ارفدوه أكالمية على قضاياها حاجة ديسي قدود ديدا أكالمية من ضم يا حاجة له وباهيها يصدارتان أكالمية علم برادنا يا هبل أتك درس برادنا يا حوالي أكالمية الرباه مثلا قف مارة مسؤوله قال لا يوتق إليه فارفدوه أكالمية ولا يقبل ثناء نبي أمانته ما أقبل يجرين إلا من مكافئ وأبا الجذي بويني مكافئ حالي لا لقفت وحقوق قرض حقش أي مكافأة لهذا أبا الجد إلا من مكافئ لا يقبل الثناء ما أقبل يجرين أمانته إلا من مكافئ مكافئ هذه على قفك النبي قف حسيه وهدي نبي وقف سيه قفك هدو إلى خير الله كسيه أحسنت جزاك الله خيرا يا رسول الله ودعي النبي عليه السلام أمانه أما أمان بدل أو أمانه النبي مذيهي وكم مقدر رسولك عليه السلام حاجة لو صح إنك وأمانة وحكوا أمانة يقولون نبي كواركي وحسيي بك أمانة يا لكن إنه وحبة السنين بقى هدو إسكمارة أمانه ما حد يأمانه سابو ديش ما يأمانه ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا بك عرّا النبي عليه السلام كوا تشعل إن لو حمد الله أمانه بما لم يفعلوا وحين سمعنا لو أمانه كوا سوكلوا ديدا يا نبي إنه كم يدنقضوا مركز لكن قفك وقالوا مركز ده وقالوا كوا أمانه وأمان وكعب الجري رسولك عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه السلام أحد مسلمة ومؤمنة ومن أبال قلت كلهن ما بجرة صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقطع أحد قفنا كبقويت إن حديثه وركيس قف هذا كبك الجري حتى يجوز إلى حد كجدبه هذا قفك هذا لا يحد جدبه وعلى الله بهانه بقول دحي هذا الله فعلا بقول هذري فيقطعه وجوين جري النبي عليه السلام مركزي بينهي كالريبت شوتش بوديجري واحد قال هذا زحمة قفل wax ka sheegtay nimba wax arimo kala ka hadashay jooji buu dhigay aw qiyam yaqdacu wa goyn jiray binahi inuu ka reebo kow aw mas qiyam buu ku goyn jiray istaagu ka istaagaba iskaga tagaba fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadith ghayri wa iskaga tagi jiray nabi alayhi salatu wasalam adu qofka xadud la yimaado qala hadathana محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ويدير شيئا واحد قد وليس فقال أجر لا ما لا ذا لا فينا ولا ذي لا كسين ما هيوي مد الذي ده ومد يدا لكن لا هذا إخبار تهي أو كمهري كرا ونبي أي تهي لا أي لا أجد مهري كرا هذا لا ذو تهي لما تمره نبي القرآن إلى القرآن كل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا قال لا أجد ما أحملكم وأنيش لا أجد لكن لا أولا ما هي لا ديدو وحبابكم بصين هيا مدة ومدة ونبي أنا ورجي لما قال أي قار كود لك قبل أيام قار الصحابة التابعين تأم السلف كمية قبل يشغل لكن النبي كجهبون كم مضن صلى الله عليه وسلم لم يقل لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعمي
يعني لا ما dhihin tashahudka mooyane laa ilaaha ila allah nafyigaas hadduuna tashahud iyo taxiyaad jirin laadiisa nacan bay noqon lahayd buu leeyahay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani laa kuma siinayo ma dhihi jir hadduu hayana waa siin jira haddii kalena ma hayo iyo mar kale iisoo noqo waa dhihi jiray sala allahu alayh wasalam قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها أجود الناس dadka midka ugu deeq badan بالخير خير كان النبي عليه السلام ku degdeg أجود معنى أسرع وي أجود الناس بالخير midka ugu degdeg badan baa بالخير حق خير وكان أجود ما يكون markuu yahay markuu ugu degdeg badan yahayna oo khayrka lagu degdeg badan yahay في شهر رمضان bisha رمضان bay ahayd bisha رمضان buu ugu degdeg badnaa khayrka oo qiraa'atu alqur'aan iyo salaatu taraawiix iyo i'tikaaf iyo khayr buu ku dhamaysan jiray xataa yansalikha ilaa uu ka dhamaado ramadaan fayaatihi jibriilu malakul jibriil baa u imaan jiray oo khayrka waxaa kamid ahaa inuu jibriil nabiga calayhi salaam qur'aanka la mudaakareeyo fayacridu calayhi alqur'aana qur'aanku u bandhigi jiray cardi nabiga calayhi salaam qur'aanku dul aqrin jibriil waa isla marra mudaarasa la soo arortay mudaarasa iyo cardi marka marra mudaarasada waxaa weeye hada yaqra wa hada yaqra waa isaqrin jiray labadooda fayacridu calayhi alqur'aana buu bandhigi jiray فإذا لقيه جبريل مركو ملك الجبريل نبي لكلمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو نبي هنجري أجود بالخير مت خير كأوجدك بدل من الريح المرسلة دبل الدري دبيش عذابنا والله الدرا إنه مضل وهلا عاصفة أي نقطة مرة رحمة بين نقطايو ومبشرات أو رابكة أي كهر رئيسا صحائي وتقول الرابكة كهر رئيه ويان ومرت حفوك ومرته كده من الضرورة تبقى سوكها بجليسة مركز دبيش دلقاها الله وامد مرسلات خير كالله الدري dabeesha nabiga waa uga degdeg badnaa khayrka yaana dabeeshaasi meel bay maraysaa meel la weli ma gaarin meel way soo dhaaftay laakiin nabiga calayhi salaam khayr mariiqan buu khayr buu ku jiraa awwalan wa aakhiran nabiga calayhi salaam ku jibriil u imaado min awwalihi ila aakhirihi quraan la akhriyo iyo sadaqa la baxsado iyo i'tikaaf la sameeyo iyo eray wanaagsan buu ku jiray sallallahu alayhi wasallam taas marka uga khayr badan yahay ama uga degdeg badnaa dabeesha قال حدثنا هارون بن موسى بن ابي علقمة المديني عفوا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا مكة إذا يسنجر الدنيا حولها لغد بريء مكة إذا يسنجر مركا يدخر شيئا لنفسه وهكذا كانت الماما سخاء نفسه يقرأ النبي عليه السلام وحي صاقر وبحناي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وحي ضروري وضروري ومركا قرر كيسي عدي سؤول واقع عصار النبي عليه السلام حديث صحيحة النبي انتو بارتي بن النظير فيجي إسأل كسر جاي قيمتي كسر أولها فيجها انتو قضاه إنه كيس قوت السنة سنة واحد عون جرين وقولي جري أيها صورة في البخاري بيركسوا عن تهي قال لكن واحد يراده ساس وكلام هم بس اللي جرين حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه أسلم العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل نبا جاء يبدل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وحو سؤاله يعطيه ونصيه وحيسيب النبي الله حوالي سي صحابة دقار عربتي صحابة قار وحولي ويدسجر النبي عليه السلام وحي أو هيو غنيمة دي كسو هاري أما الزكوات كي كسو هاري كسو أما وحي صدقات والله كينو أما حتى مرك قار النبي وحبه يستلم بكل الجيران والليجر وحيسي سوى وحبه يستلم النبي عليه السلام مركا فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسيد أمه على جنجري واتن يؤدى وينجري فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ما عندي أكتير ما هان شيء وحبا هم هي ولكن ابتعقضوا علي على ضماني ومسؤوليتي كقضوا الرسوق هذا دين قاضوا دين تو نوع بيع كمده دين قاضوا أنا كركي هي مسؤولية دين أنا كقاضي أنا بحين وكعب بحين مسؤولية النبي عليه الصلاة والسلام هذا هم هي لكن أرد دين قاضوا قفك دين تبرت أنا كعب بحين حسين دوني هي الكاس قال فإذا جاني شيء مركب حي ماضو ينقضيته دين تكعب بحين فقال عمر باوحير يا رسول الله قد عديته ننكر إن بدن بوحسيسي فما كلفك الله هذا بحسب كلفي فما كلفك الله إلهي وكما كلفين ما لا تقدر عليه واحدا كرين إلهي وكما كلفين ما حد ينتسو صاري فكرها النبي صلى الله عليه وسلم نبي وانا قول عمر هذا الكيس نبي واكو هذي سداسي وكو هذا لعمر نبي واكو هذي عليه السلام oo inuu ka reebo oo yiraahdo maxaa deen ugu qaadi ninka deen darteed sayidaraad ugu qaadi iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam warka waa ka hoday xaga khayrka iyo walaaga iyo sadaqada iyo kuboorintiisa soo jecel rasuulka faqala ar-rajul ninba wuxuu yiri min al-ansar nin reer ansarada meesha fadhiya wuxuu yiri ya rasuul allah anfiq man ku yiri bixi wala takhaf habaqid min dil arshi allah arshiga oo saaxiibka ka baqid iqlal faqriha ka baqid
ilaahayga carshiga u saaxiibkaa faqri inuu kugu rido iyo wax la-aan ha ka baqinee bixi buu yiri nabiga sala alla alay slam nabi allow bixi buu yidhi nabi allow bixi markaasuu fatabasama rasuulullah nabiga muusooday oo qoslay sala allah alay wasalam wacurifa waxaa la gartay fii wajhihi albishru baa laga gartay weji furaan liqowli lansaariyi ansaariga hadalkiisiibuu ku farxay oo u weji furay uma qaala wuxuu yihi bihada sidaa uu ninkan yidhi yaa umirtu la amray oo waa maxay allaa akhaafa min dilcarshi iqlaala inaanan baqin allaha carshiga uu saaxiibkee qariga ee futuuxaadka iyo khayr oo dhanba gacantiisa ay ku jirto saxaau leyli wanahaar laa yaqiiduhaa shay habeen iyo maalinba gacanta alla way socotaayoo wax ka nusqaabay ma jirto ilaahaas agtiisa inaanan wax faqri ah ka baqin oo wax aan helo aan bixiyo anoo ku kalsoon allaha dilcarshi ah inuu isiin doono bixin doono taasaa lay faray buu nabiga calayh salaam wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayru raasiqiin qaala xadaanaa caliy bnu xujrin sacdiy qaala akhbaranaa shariik bnu cabdillahi can cabdillahi bni moxamed bni caqiil can rubayic binti mucawid bna cafraa qaalat waxay tihi radia allahu canha rubayic ataytu nabiya nabiga calayh salaam baan u keenay biqinaacin baan oola imaaday dabaq waabaa laga sameeya laamaha timirta iyo caleenta laga sameeyo oo masafta la dhaho masaf weeye min ruabin oo ruab ah masaf oo ruab ah rudabka waa timirta intayna timirtan madow ee bislaadka ayna gaarin ay soo socoto ee ku dhowdahay ayaa rudab la yidhahdaayo waa nooca ugu macaan ee aad iyo aad faakahada ah ilaa heer la gaaray in musaabanadii xaaraanta ahayd rukso qofka loo ogolaado rudab daraadiis rudab si uu cuno marka qinaaci min rudab buu nabiga calayhi salaatu yaan u keenay bay leedahay iyo waajrin zuktin riwaayada soo marra waxay ahayd waajrin min ghihaa'in zuktin meesha waxaa ku jirtay ghihaa waajrin wax yar ajrigu waxaa weeyaan wax kasta oo ay yar jarwu kalbin iyo aajirun wax yar baa ajirkan loola jeedaa waajri min ghihaa wax yar oo ghihaa baalki qajaarka la dhihi jiray qajaar aan soo mar zuktin oo aad moodo dheeli ama baarin aad moodo wax yar oo iska curdan ah oo qifihii oo curdanahood zukti weliba dheelidiisi iyo baarintiisi ay madaxa la soo baxday hadda yaantaa soo siisiibay baa nabiga u keenay fa acطaanii wuxuu isiiyey mila kafihi sacabkiisa muggiis iyo dhuubkiisa muggiis oo xuliyan xuliya wadahaba dahaba waxa haweenka isku qurxiyaan ee dhagadhagaha iyo waxaas iyo dahab ayuu nabiga siiyey waan soo marray xadiidka isnaadkiisa daciif buu ahaa qaala xadaanaa cali bnu khashrab wagayru waaxidin qaaluu waxay dhaheen xadaanaa ciisa bnu yuunus can hishaam bni curwata can abiihi can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu alay wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa yaqbilu lhadiya hadiyada waa aqbali jiray wax haddii la siiyo oo waxaas sadaqa ah loola jeedine hadiye loola jeedo yani in laisku jeclaado oo wax lasa siiyo oo muwaasaad iyo xiriiro laisku sameeyo ayaa loogu talagalay hadiyada laakiin sadaqada qofkaad siinayso wax weji ood ka leedahay ma laha laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura weeyaanoo abaal iyo jaze iyo midna kama rabtid oo aakharo iyo hor aakharo iyo habeen aakhiraad waxaad u baxsanaysaa marka usaakunaas maa ladhaho dambiga lagu dhaafaayo aakharun baad waxaada ku heli laakiin hadiyadu waa dad maarata tacaawunayo o takaafil ijtimaac waxsisiini markaa saaxiibnimo iyo maxabo iyo tahaadu taxaabu isku hadiyaya isjeclaataane deena berri asagana ha kusi saas ayaa loola jeeda walidalika nabigu waa aqbali jiray wix saas oo kale ah oo adigun aadan waxba lagu siinaynin adnaad lagu siin adnaad wax bixinayso waa jeclaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ana nabiga kaana yaqbalu hadiya waa aqbali jiray wayuhiiba calayha waana abaalmarin jiray yuhiiba calayha waxaa laga wadaa yani qofkii siiya hadiyada bedelkeedii ayuu siin jiray rasuulka alayh salaam qiimaheedii ama ka fiican buu siin jiray baabu wuxuu ku saabsan yahay maa jaa fi xayaa'i rasuulillah xishoodkii nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxyaalaha qabiix iyo munkaraadka iyo macaasida akhlaaqda xun waxaas oo dhan buu nabiga ka xishoon jiray alayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa mutaxalliyan bilfadaa'ili ayuu ahaa wax alla wix wanaag oo dhanna nabigu waa ku sifaysnaa wixii akhlaaq iyo radaayil xun oo akhlaaq xun oo dhanna waa ka fogaa xishoodka saa weeyaan qaala xadaanaa محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الشعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة أيان مقلي بيجري أو يحدثك والربع عن أبي سعيد الخدري قال وحيري كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوها أشد حياء حشوتك وحكدر من العذراء قبر قشانتيا أو في خدرها قريقي هذه كجرته قبلها أيضا قبر قشانتيا وقريقي هذا ولا يتبع حين مخالطة يضد حقلي وحما أنا قونين قريقي هذه كجرته وحتى رجع إسكره هينك كحشوري وكان إذا كره شيئا مركو النبي وحنحه عرفناه في وجهه كجرن جري وجهه ساس بدل جري النبي عليه السلام حشوتك iyo sidoo u nacaayo ku hanaay waxa xumaanta wajigiisa la garan jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka gabadha waa miisaal bay noqotay tusaale noqotay gabdhaha waxa tusaale u ahaayeen xishood saasi asal ku hayd wixii xishood la yiraahdo oo akhlaaqda xun laga fogaado oo mid fiican la qaato oo edeb la yeesho
asal bay gabdhuhu u ahaayeen tusaale iyo mithaal la soo qaatana way ahaayeen xataa nabiga lagu shabahay sala allahu alayh ali wasalam marka waa gabdhihii hore ee fitrada ku sugnaa iyo akhlaaqda iyo edabta islaamka ku sugnaa wey laakiin hadda waktigan wax badan baa isbedelay oo gabdhihii waxaa weeyaan xishoodkooda waa yaraaday shaki ma lataa iyada xishoodka waa yaraaday in badanna waaba ka siibteen waa ka tageen khayr weli waa baaqi buu ku yahay oo gabdho qiimo lahoo khiyaar ah oo shooda oo diin la waa jiraan laakiin xishoodka waa yaraaday waxaana keenay ikhtilaadka ragga iyo haweenka isku dhex jira waxbarashadii oo rag iyo haweenkii isku dhex daraya waxyaalaha waxay kamid tahay xishoodka tira gabadhan maadiba galaaska koobaad ilaa galaaska sideedaad inta ay nin ajnabi ama dhalinyaro ay la far ciyaarayso la sheekaysanaysa oo ila hadli jirtay gabadha xishood iyo rag ay ka xishood waa ka tagtay xishood rageed waa ka dhimatay waa iska tagtay gabadha noocaas oo kale maalin baa mid meel xaflad ahoo meelahan iskuullada iyo mararka qaar musaabaqaad iyo waxbay sameeyaan qur-aanka yaa ka qayb galay marka gabadh baa marka inay kelimo jeediso damacday oo xogowda xijaabkeedina xijaabkii sharciga ay fiicnaa ma wada ahayn oo way iska xijaabneed laakiin sidii la rabay ma wada ahaa marka mikrofoonki baa loo dhiibay way istaagtay markaasa waxaa iska fadhiisa dhaha fadhiisi ku macallinkeeda oo eg fadhiya wuxuu kada way tababaran tahay buu yidhi marka way tababaran tahaydaasi ma fahmi waaye macnaha waxaa u malayn inuu ka wado waxaana si gabdhahan xishoodoo kale ma aha gabdhahan xishoodoo kale ma ahe iyadoo galaadagoys wey oo ragga dhexdiisa ka dhex hadli ma xishoonayse marka inay waa xishoona way dhici aan yuumadina ka wado anna waxaan isla bilaabaya xishoodki nasal allah salam ala kulli xaal xishoodku waa shayga muhimka gabadha haddii xayaa iyo xishood ayna lahayn dee qiimo ma lahaba wax qiimo ay leedahay ma jirto waa in marka edabta iyo xishoodka gabdhaha lagu celiyo oo xijaabka iyo asturka iyo xishoodka macnawiga ah labadaba waa inay wada leedahay qaala xadathana maxamuud ibnu ghaylaan qaala xadathana wakiic ibnu jaraax qaala xadathana sufyaan ثوري عن منصور بن معتمر عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطبي عن مولى من مولاه ولعائشة مولاه قال وحجر مولاه مجهول قال عائشة وحيت ما نظرت مفر إلى فرج رسول الله نبي فرجيس عليه السلام مفر أو قالت ما رأيت مارك فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجيس قط ولي مارك ميتري حديث ضعيف يعني وحديث ضعيفة نبي عليه السلام حاسكيسي عائشة يهوانكيسي حاسكيسي إلهي أبنيي libaas ooga dhigay quraankaas lagu soo dajiyay baa wuxuu leeyahay hunna libaasun lakum antum libaasun lahunna darbay isku yihiin ayagaaba astur isku ah oo isqarin oo is asturi oo isku hooyan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala isku xalaaleeyay oo mucaashiriya mucaamalada dhaxdooda uu isku baneeyay oo wax awra ah oo dhaxdooda ku jirta ma balaha warkan marka war daciif weeyaan wuxuu ka hor imanaya xadiiskii Bukhari oo soo saaray qeyrba aashareeda ay kuntu aqtasil ana wa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam min inaa waahid hal weela aniga nabiga alayhi salaam ku qabaysan jirayo taqtarifu aydina fihi gacmaha isdhaafin jiray riwaaya qaarkood dacni iga tag iyo ibanay baan dhihi jiray way qabaysanayaan marka in ixtimaalaad la geliyo ixtimaalaad aan maartay meesha ku jirno baciid ahna waxaa weeyaan ixtimaal kasta ictibaar ma laha ixtimaal waxaa jira waxaa dhici karta asal maaha in nabiga uu dhar ku qabay asoo dhar qaba uu qabaysanayay asal maaha waa nabiga alayhi salaam sidii lagu yaqaano markuu qabaysanayay dharkiisa meel buu dhigan jiray sallallahu alayhi wasallam waa qabaysan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaas asal ah marka waa ixtimaal haziil ah oo caliil ah oo daciif ah in la yiraahdo waxaa dhici karta inuu mala qabay qaala xadathana علي بن حجر السعدي قال حدثنا marka wax ceeba kuma ah bal sharaftiisi reerkiisi cidiisa nabi alayhi salaam waxay kamid tahay xusnul macshar muaamalada wanaagsan uu muujinaya baa la soo qaata xadiiska noocaas sida uu nabi reerkiisa uu kalsoonaa u jeclaa ilaa ay wada qabaystaan قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك با وحال ويدي عن كسب الحجام قفك حجام كتوب الله كسب كيس نمت باب كما ماشي جرميها باب ما جاء في حجامة رسول الله توبينك النبي صلى الله عليه وسلم توبينك قال يقانا توبينك وحويان وعملية أذكرنا إنساني انت دبرك أما شركة مالك من الصرصرة wax lagu soo tuujiyo dhiig laga keeno marka fasaadu dam ama ziyadatu dam dhiig faasidaho jirana oo la soo saaro ama dhiig badan oo loo baahneen oo kugu jiro iska yarayso labada faa'iidaba uu leeyahay nabigana wuxuu ku daray waxyaalaha saddexda shay ee daawada ah iyo ku daray malab la cabay iyo toobin la istooba iyo gubitaan oo nabigu yiri waan ma jeceli uu yiri ama waa reebaya saddexdaas uu nabigu daawo ku sheegay kaleey salaatu waxyaalaha daawada ku daray xijaamada marka aad iyo aad bay mufiid u tahay قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن حميد قال سئل انس بن مالك وحال ويديي عن كسب الحجاب قفك توب الله قفك التوبه كسب اجرم الله سينا مليه حلال بيا
faqaala wuxuu yidhi anas ixtajama rasuulu llahi sal slam baa istoobay xajamahu waxaa toobay abu taybata ninkii la dhihi jiray oo addoon laleeyahay buu ahaa fa amara lahu nabigaa wuxuu u amray in la siiyo bisaacayna laba suus oo min dacaamin raashina siiya buu yidhi wa kallama wuxuu kala hadlay ahlow reerkiisii ayuu kala hadlay wuxuu yidhi waxaan aad saarteen ee maalin walba inuu keeno kabarwada ka fududeeya fawadacuu canhu way ka dejiyeen min kharaajihi wixii kharaaj ee qulla ahe laga rabay inuu maalin walba soo xasiliyo keeno ayay wax ka yareeyeen oo ka nusqaamiyeen wa qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina afdala maa tadaawaytum bihi waxaad isku daawaysaan waxaa ugu fadli badan alxijaamatu waa toobinka aw ina min amhali dawaa'ikum daawadiina waxyaalaha ugu fiican alxijaamata toobinka kamida wi nabiga sala allahu alayh waali wasalam marka waa daawo daawadu as ahaana waa banaan tahay oo tadaawo cibaad allah fa ina allaha lam yanzil daan ila anzala macahu dawaa isdaawaya buu nabiga calayhi salaatu wasalaam cudur ilahay ma soo dejin ilaa daawadiisana waa soo dejiyey ninkii yaqaano maa garan ninka garanayna ma garan lakin daawada cudur walba daaway leedahay shaahid waxaa weeyaan marka xadiidka nabiga waa istoobay calayhi salaam toobinka weliba xalaal inay tahay waxaa sii tusaaya ujru siiyey ninkii xajaamkaha ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray hadday xaaraam tahay ma siiyeen sala allahu alayh waali wasalam ujrada inay xalaal tahay bay waliba tusaysaa oo wax ku qaadan karo qofka laakiin waa camal aan aad u fiicnayn oo riwaayooyinka kale ee qaba kasbulxajaami khabiid leh khubfiga waa xagga muru'ada iyo ikhyaarnimada oo camal wanaagsan dhiig iyo waxyaala noocaas oo kale ah inaad galgasho ood ka maarata shaqaysato waa laga fiican yahay ma laga wadaa wa ilaa xalaal miya marka laga hadlo waa xalaal shay kasta oo khabiid ahna xaaraan ma keeno walaa tayamamu lkhabiida minhu tunfiquun wax la bixinaya walastum biakhid ila an tuqmiduu fiih marka wax waa wax la qaadanaya lakin waa wax laga fiican yahay khabiidna waa lagu magacaabay marka waa wax yar waa wax maarata aan dhamaystireen khabiid waa la iskaga magacaabi karaa marka ma aha xaaraan xadathana camr ibnu caliy alfallaas camr bnu caliy camru sari baa la yihahdaa wuxuu kamid yahay sagaalkii aimada sitada lixda sheekha u wadaha mubaasharatan isku soo gaareen qaala xadathana abu dawud dayaalisi qala xadathana warqa ibnu cumara can cabdillah cala can abi jamiila can caliy qaal ana nabiya sala allah alay wasalam nabigu ixtajaba waa istoobay nabiga alay slam wa amarani wuxuu amray inaan siiyo ninkii toobinkaa ujro oo faacdaytu waxaan siiyey alxajaama ajra ujradiisi baan siiyey qaala xadathana haaruun kii hore un buu lamid yahay kana xadiidka hore un buu lamid yahay inkasta oo abu jamiilahaasi maqbuul uu yahay laakiin riwaayada hore iyo soo maray ayuu xoojinaysa xadathana haaruun bnu isxaaq alhamdani qaala xadathana cabda can sufyaan athawri can jaabir jucfi baa la dhahaa waa nin aad daciif u ah lakiin mutaabic asagana wataa hadiisa kala xoojinaysa can ishacbiya camr bnu sharaxiil can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal nabigu wuxuu yidhi ina nabiya sala allah alay slam ixtajaba waa istooba fi lakdacayn labada margi buu iska doobay nabiga alay slam labada margi yani luqunta labadeeda dhinac geesaheeda yani xididka weyna ku yaala xididaha ku yaala waxaa la dhaha akhdac la dhahaa akhdacayn marka waa labada margi halkaasuu nabiga iska toobay wa bayna alkatifayna labada garab dhexdooda ama kaahilka waa la yihahdaye halkaa tunkaana waa iska toobay nabiga sala allah alay wasalam wa acda alxajaama ninkii toobayna wuxuu siiyey ajra ujradii uu lahaa buu siiyey oo qamandiya waxbuu nabiga alay slam iyo kula heshiiyey walow kaana xaraaman hadduu xaraam ahaan laha bu ley ibnu cabaas lam yucdihi ma siiyeen hadduu xaraam ahaan lahaa ujro in lagu qaato ama xajaamku nabiga ujro ma siiyeen sala allahu alayh waali wasalam marka xalaal weeyaan ujrana waa lagu qaadan karaa saasuu ka wadaa meeluhu marka nabiga iska toobay calayhi salaam bay kamid tahay labadaas margi ama luqunta iyo dhabarka oo sheekh cabdirazaq ibnu cabaad albadri wuxuu leeyahay sharxiisa kitaabkan wuxuu leeyahay adibada markii dambe abxaasta iyo baxhiga casriga ee mucaasirka ahe adibadu ay baaritaan ku gaareen waxaa kamid a meeshaa tunka ah ee dhabarka ah waa meel yar cadalaadka iyo muxuu ahaa xubnaha ku yar xididaha yaryara aad bay ugu badan yihiin ee dhiigga kaxeeya marka dhiigga aad ba ugu badan yahay meesha iyada ah dhiiggaas marka inuu fadhiisto oo socodkii laga rabay iyo qaabkii laga rabay uu socon waayo xanuun dhabarka ah qofku mar walba uu dareemaa dhacda ayaa adibada ay baaritaan ku gaareen marka warka asagaa wuxuu waafaqay tusayna nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkii xadiidkiisa uu yihi garbaha in layska toobo ama labada garab dhexdooda layska toobo hadyigaas nabawiga iyo ibiga nabawiga ah inuu yahay shay mucjize ah lanna wax nabiga fuxuusaad ah iyo baaritaan ah iyo qalab iyo technolojiya midna ma haysanin marka arrintaasi waxay tusaysaa nabiga calayhi salaam misdaaq qowlihi warkiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu rumaynaya inuu yahay oo caddaynaya rasuulnimada iyo nabinimada iyo xaqnimadiisa yaqiin waa la wada rumaysan yahay muminiintu way rumaysan yihiin lakin yaqiinta usii ziyaadinaya qaala musanif marka xadiidka asaga aana saas sheegnay jaabir jucfi ba ku jira lakin mutaabic u leh asaguna daciif lakin duruqdiisa xoojin qala xadathana isxaaq bnu mansuur qala anbana cabdالrazaq can macmar can qataada can anas bni maliki ana rasuula اlahi sala اlah alay sl nabigu ixtajaba waa istoobay wahuwa muxrim asagoo muxrima
bimalal meesha malal la yiraahdo malal waa meel Makiya Madiina u dhaxaysa ala dhahri alqadami gomadiisa daahirkeeda halka ciribta ah ama gomada korkeeda ayuu iska toobay nabiga sallallahu alayhi wasallam meelaha la iska toobay kamid tahay toobinka maartay ku soo aroortay قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري صوما يا مسكوك على هذا كبتم حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبد عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه حجاما توبلوا نبي ويري فحجم مركاسو توبي وساله وحو ويدي كم خراجك خراجك soo saarta maalin walba laga rabo inaad soo saarto wax soo saarkaada kharaaj la wax soo saarka sayidkaada uu kaaga fadhiyay ka rabo maalin walba ku saaray meeqa way faqala xudii thalathatu as'ud wali iga fadhiya maalin walba inaan keeno saddex suus oo raashina soo shaqeeyo fawadaa'anu nabiga ka dajiyay saacan suus واعطاه وحوسي اجر اجريس واسي السوس بلغا جري لبا ونوغي هدا كدب dadka uu kala hadlay ka soo maray قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمر ابن عاصم قال حدثنا همام وجرير ابن حازم قال وحيدا حدثنا قتادة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها يحتجم في الاخدعين لبداس مرجي ايو كتوبت يا والكاهلي هكا تنكا كايلك وبين كتفين لبدا قربخدود تنكا وكان يحتجب هو يستوي النبي ل17 تضويه مركب بشمريس و19 سغاله مركب بشمريس 21 كوي 2 مركب بشمريس xiliyaha say yuuxiida iyo dhiigu oo si fiican u shaqeynayaayo ay wax dhiigaha xuna ka iman kara حدثنا اسحاق بن منصور قال انبارك حديث سغانا علماء duruq fara badan soo Abu Daawud soo saara qaar ka badan oo kamida saacadaha ama maalmaha ku saabsanna inta badan waa la daciifiyaa حدثنا اسحاق لكن كان محير شيخ الباني يا محير ضعيف بيسام اوكي واضح فيه حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن قتادة عن انس بن مالك ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم بملل ملل وبال مكان مقعد وي مكي مدينه دحيس حق مدينه سو دوده على ظهر القدم قمديسا ama lugtiisa daahirka baadinka lagu istaagay ma aha dhankan bugmadowga halkaas uu nabiga iska toobay sallallahu alayhi wasallam marka iyaduna waxa weeyaan saameynta ay ku leedahay toobinka jirka iyo waxyaalaha dhiiga la soo daadinayo xanuuno badan oo mustacsi oo aad u adag ayaa lagu badaaweeyay oo ilaahay dadka ku caafiyay subhanahu wa ta'ala qaada xanuunada hada boogaha ama waxa kan sarrada wal iyad billah hadii maartay wax meel muuqdo oo la gaari kara ay ku taalo oo la toobin la saaro caafimaad baa loo rajaynayaa marka waxa kale laga qaadanaa xadiidka qofka soo muhrim ama xaj ama umro ku jira inuu istoobi karo meel aan timo lahayn meel timo lahayn hadii tahay oo timaha in la guro ay tahay taa iyada waa laga fiican yahay hadii daruuro timaadana waa istoobaya fidyana waa bixin neef buu gowrici baa ma jaa wixii ku soo aroray fi asmaa rasuulillah nabiga kaleey salaam magaciyaashiisi qiimaha badnaa asmaa fara badan buu nabigu lahaay magacyo fara badan asmaada faraha badanna waxay xumbaarsan yihiin awsaaf jamiila tilmaamo fiican marka waa asmaa ala al-musamma waa magacyaal waafaqay nabiga kaleey salaatu wasalaam akhlaaqdiisa iyo sifaadkiisa waafaqay way sallallahu alayhi wa sallam قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قف كبدا قالوا وحيدا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال وحي مطعم بن عدي من كل يتبع يا دلي نوفلي هي بن نوفل قال وحي قال رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام بوحيري إن لي أسماء مقعيال بان أنا ولاهي أنا محمد باراي محمد باراي كي لو حمديي أو أولين يا كريم كيسكوي مادان نبي رايديسي علنكيسي علنك رايل علنك النبي عليه السلام يا دمال ولا هستورن أو لو مهادين أو شفاعتي سال لو مهادين أنا محمد باراي إلهي وحوا فجي أبيس عبد الله ابن عبد المطلب إنه إلهي كل إلهامي مقع إنه بحيه محمد مركا ومقع وحون نقضي وافقي النبي عليه السلام سفدي وافقيه كوي هوري كوي دنبه ما انت النبي الله soo saaray nuurka ilaahay uu soo dhiibay iyo iimaanka diinta ilaa maanta ilaa qiyaam saaca intaas lagu xamdinaya oo mahad iyo abaal loo hayaa oo nicmada uu keenay dadka nicmada iyada ilaahay uu ugu soo dhiibay shukrigiisa iyo amaantiisa ay hayaan waana anigu ahmadna waa la dhahaa yani ahmadun-naas dadka midka ugu xamdin badan maanahay ee ilaahay ugu shukrin badan waana almaahi magaca ahmadna waa leeyahay samada ayaa looga yaqaanay iyo diimihii hore lagu sheegay ahmad وكان نبي الله عيسى عليه السلام مشاري وانا الماحي وحانا هاي كي ترتراي الذي ماحي يمحو الله الهي وكتري بي سببته اذا الكفر قال لمدي وحي ادونكم مجدي كجيرو او كفر يا شركي يا قال لما مويين wax kale oo iftiin ba ka jirin tawxiid ka jirin islaamnimo ka jirin iyo nabiga عليه الصلاه والسلام ilaahay soo diray
markaasaa kufrigii iyo mugdigii baaba'ay oo nuur iyo iftiin islaamnimo wataa maka almukarama maka almukarama wixii ay 360 sanan baa kacbada ku dhex jiray wixii dhan intii la xaaqay iyo caasimatu islaam almuqaddasa noqotay meeshii muslimiinta oo dhanba qalbigooda ku jirtay kacbadii musharrafada ahayd ku jirtay ilaahay subxaanahu wa tacaala amraadii cudurada naga kor yeelo nagumana soo celiyo cuduradan naga hor istaagay in maka almukarama la tago oo xajka la aado oo muslimiinta quluubtoodii meel walbaba jooga hilowgoodii inay tagaan ku adkaatay ilaahay amraadda iyo cudurkaas hanaga qado inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirna fi musiibatina wakhlufna khayran minha musiibo weeyaan ilahay badal khayr qabnasi wa ana alxaashiru baan ahay buu nabigu yidhi xaashir midka dadka kulminaya alladii yuxsharu waxaa lagu kulmiyaa annaasu dadka calaa qadamiy aniga gomadahayga oo nabiga calayhi salaam markii awalu man yanshaqu canhu lqabru qofka u horreeya qabriga uu ka dilaaco wey nabiga alayh salam markii buunka la afuufo baxiga qofka u horreeya soo baxa waa rasuulka sala allah alay slam markuu soo baxo nabiga calayh salaam u dhaqaaqo dadkii kale oo dhan ba ciribta nabiga taagan yihiin ayagoo daba qulqulayaan isaga u horreeya ana alxaashiru alladii yuxsharu nnaasu baa la kulmi calaa qadami aniga gomadayda gadaashayda wa ana alcaaqibu baan ahay cirbiye ka dambeeya nabiyaasha o dhan ba lagu khatimay walcaaqibu alladii waa qofka laysa bacdahu nabiyu nabi ka dambeynin nabi uu ka dambeynin marka nabiga calayh salaam khaatim alambiya buu ahaayo nabi ka dambeeyey sala allah alayh wasalam ma jirin aasaa lagu khatimay ambiyada oo idilba rasuulka sala allah alayh wasalam magacyahaasuu nabigu lahaayo ilaahay subxaana wa tacaala uu u qadaray in loo bixiyo sifaadka iyo qiimaha badnaa ee ilahay ku abuuray nabigana waafaqsan yihiin sala allah alayh alih wasalam waxyaalaha ladaa'iftahe la sheegay waxaa kamid ah magacyahaas nabiga calayhi salaam mid kamida oo kufaaru quraysh markay nabiga caayayeen oo ama saaxir ama majnuun ama kaahin intaasoo cayoon unan mudanin markay nabiga ku sheegayeen hal magacoo magacayaasha kamida mayna adeegsanin oo waxaan jirin inbay intay samaystaan bay cayda ay la dulfuli jireen wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaam alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allahu canii shatma quraysh caydeeda suu ilahay iga leexiyay ma aragtaan buu yidhi yashtamuuna mudamama wayalcanuuna mudamama wa ana muxamed mudamam bay u bixiyeen mudamam ay dhahayaan mudamaman qalayna mudamaman abayna wa diinuhu qalayna bay dhihi jireen taasay dhihi jireen marka mudamam nabigana mudamam lama dhahdo marka wuxuu yahay mudamam bay caayayaan oo waa ka sheegayaan anna muxamed baan ahay sala allah alayh wasalam saasuu dhihi jiray hum yashtimuuna mudamaman wa muxamadun can shatmihim fi cazlin wasiyaani saana alilaahu muxamadan can shatmihim fi lafdi walmacnaa huma sinwaani ibnu qayim aljawziya fi nuuniyatihi bisoo aroorinaya marka ilahay baa wuxuu ka ilaaliyay nabi moxamed can shatmihim caydoodii carabkoodi iyo lafdigoodi iyo macnahaanba inay caayaan marka magacaas kale oo madama bay ka sheegayaan qala xadathana moxamed bnu طariif الkuufiyu qala xadathana abu bakr bnu cayaashin can caasim can abi waa'il can xudayfata bn yamaan qaala wuxuu yihi laqiitu nabiya nabiga alayh salam baa la kulmay fii bacdi duruqi lmadiina madiina wadooyinkeeda mid kamidaan kula kulmay faqaala wuxuu yihi nabiga calayh salaam ana muxamadun baa la dhahaa muxamed midka dadka ku xamdiyan ku mahadiya waana axmadu naas baan ahay ilahay ku xamdiya waana nabiy raxma nabigii naxariistaan ahay wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin naxariis baan yaa nabiga loo soo caalamka o dhan ba gaal iyo muslim xataa maarata xoolaha intaba naxariis buu yahay rasuulka sala allah alayh ali wasalam waana nabiy raxma wanabiyu tawba toobada nabigeedii baan ahay toobadaas dadka ugu baaqaayay oo weli ilaah usoo noqda oo soo toobadkeena oo dadkii way dambaabayaan dembigaasi kasoo laabta ayuu nabiga alayh salam dadka ugu baaqaayay waana almuqafaa waxaan ahay buu nabigu alayh salaam almuqafaa midkii la raacay iyo almuqafi midkii raacay almuqafaa midkii dadka la raaciyey muqafa lilambiya bay noqon iyo almuqafi lilambiya kii raacay ismu faacil ismu mafcuul wey wa ana almuqafa baan ahay midkii la raaciyey nabiyaasha la raaciyey oo waxaa la yidhi raac baa la yidhi ulaaika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih baa la yidhi muqafina waan ahayoo nabiyaashii baan raacay oo gadaashooda yaan maarata daba socdaayoo dhammaystiray mutamim makaarib akhlaaqda wanaagsan baan dhammaystiray wa ana alxaashiru baan ahay kii kulmiyey dadka oo dhanba isaga markuu soo baxay gadaashiisa lasoo wada xashriyey wanabiyu lmalaaximi malaaximta waa jamcu malxama malxamaduna waa xuruubta iyo dagaalada iyo xuruubta bayna alislaami walkufri bayna alislaami walkufri wa bayna alxaqi waalbaatili dagaaladaas isaga ah nabigeedii baan ahay oo xaq iyo baatilku mar walbaba siraacii bilowday markii nabiga lasoo saaray ilaa qiyaam saaca waa soconaya aljihaadu maadin ilaa qiyaam saaca soo arortay waa soconaya qala xadathana isxaaq bn mansuur qala xadathana nadr bn shumayl qala anbana xamaad bn salma can caasim can zir ibn xubaysh can xudayfa can nabi sal naxw ibn canaaf wax lamida haakada qala xamaad bn salma saasuu yihi can caasim can zir can xudayfa ayuu yihi baabu ma jaa fi cayshi nabiy nabiga noloshiis
waxaan soo marray baabka sagaalaad baan kusoo qaadanay caysh nabiy isagoo xadiis fara badana haddana mar labaad buu kugu soo celiyey in nolosha nabiga calayhi salaam ay ahayd kafaaf waxaan ziyaado leh aan ahayn inta uu asaga ku noolaan karo un wixii dheeraadana waa bixin jiray xadathana qutayba bnu saciidin qaala xadathana abulaxwasin can simaak ibni xarbin qaala samictu nucmaan bnu bashiir baan maqlay yaquulu asagoo le alastum fii طacaamin soo raashin ma haysataan iyo cunto wa sharaabin sharaab iyo cabitaan sooma haysataan maa shi'tum intaad rabtaan laqad ra'aytu nabiyakum idinkana noloshaad ku nooshiin maanta saa rabtaan baad u nooshiin oo u cunaysaan u cabaysaan laqad ra'aytu nabiyakum nabigiina sala allahu alayh wasalam baan arkay wamaa yajidu isagoon helaynin min addaqali baasha timirta la yidhaahdo mideeda daqalka la yihahdo daqalka waa radi timirta xun ee qallafsan maa yamla batnahu calooshiisa wuxuu ku buuxiyo muuna heli jirin daqliga timirta xun buuna heli jirin iska lab timir fiicane idinkana cuntada iyo cabidda nooc baad heshaan saasuu leeyahay xadathana marka adduunyada qiima daradeeda iyo nabiga suu kaga tegay calayhi salaam una waxba isku raacinin sala allah alayh wasalam qaala xadathana haaruun ibnu isxaaqin qaala xadathana cabda can hishaam bni curwata can abiihi can caaisha radia allahu canha qaalat caaisha waxay tiri in kunnaa waxaan ahayn aala muxamadin baan khasisiye si gaara waxaan oga hadlayaan ujeeda reer muxamede waxaan ahayn namkuhu kuwa nagaada shahran bil baan nagaan jiray bil kaamilaan dhamaysan jiray maa nastawqidu annagoon hursanin oon shidanin binaarin wax daba annagoon shidanin bay bil noo dhammaan jirtay riwaayo kale 2 bilood oo tii saddexaad ay bilan jirtay riwaayatu curwa can caaisha saxiixa ku sugnaa maxaad cab cuni jirteen haddii la yidhi waxay tihi in huwa ma aha waxaan ku nooleen wax kale ila tamru timir iyo walmaa biyo timirtaa madow iyo biyahaas umaan ku kaban jiray wax kale maan haysan daba lama shidaayo waa bil kaamila weeyaan marka fiiri nabiga zuhdigiisa calayhi salaam iyo haweenkiisa raali ahaanshahooda iyo sabirkooda iyo dulqaadkooda fiiri bil kaamila oon guri dab laga shidin ninkiina uu iska joogo hagee buu aadi hadeen islaanta waxay dhihi lahayd ama kuwa qaarkood laga yaaba inay dhahaanba waxaana soo dhacday haddaa rabtay or wax noodon haddaa rabtaa wax soo dhacdide oo dad aad xoog uga soo qaadatid marka xaaraanta ayaa ka daran wax walbaba qofka wuxuu ilaahay siiyo inuu ku qanco kuna sabraa loo baahan yahay alridwa bilqaliil taqwaday ka mid tahay alridwa bilqaliil waxa yare alla ku siiyey inaad ku raadli noqtood alxamdulilah tiraahdo ku sabirto taqwadii alla ka cabsi ay ka mid tahay qaala xadathana cabdullahi bn abi ziyaadin qaala xadathana sayaar ibnu xaatim alanzi sayaar ibnu xaatim qaala wuxuu yihi xadathana sahl ibnu aslamin can yaziid bn abi mansuurin can anas bni malik can abi dalxata waa rabiibkiis adeerkii weeyaan oo rabiib uu ahaa abu dalxa zayd bnu sahl mashhuuru bikunyatihi magaca kunyadaasuu mashhuur ku ahaaye zayd ibnu sahal baa la dhahaa radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi shakawnaa ilaa rasuuli illah nabiga calayh salaam baa waxaan u sheeganay aljuuca gaajo gaajaana qalatay nabi allo gaajaana haysa wa rafacnaa can butuunina calooshaa nabiga waxaan ka kor yeelloon ka banaynay can xajarin hal dhagax oo caloosha noogu xidhan baa nabiga tusnay oonana fiil gaajada markay calooshina soo duntay oo dhabarka asaga aan xajin weynay nagu soo dubay yaan dhagaxa caloosha ku tiirsanay oo ka gaajadii darteed fa rafaca rasuulu llahi sal slam baa wuxuu kor u qaaday can badnihi calooshiisa wuxuu ka fayday can xajarin 2 dhagax idinku hal dhagax baa inigu xidhane 2 dhagax baa inigu xidhan bay rasuulka alayh salaam xadiid daciifa weeyaan sayaar ibnu xaatimkaasa saduuq lahu awmaa manaakiir munkaro fara badan iyo awhaan fara badan buu leeyahay saduuqna weeyaan laakiin xadiid saxiixa oo fi saxiix albukhaari ku sugan jaabir bn cabdillaahi khandaqa markii la qodaya ghaswat laxzaab nabiga calayh salaam oo aad u gaajaysan oo hadalkiisa laga garanayo bidhaantiisa waa kii arkay ee dee gurigiisa intuu aaday ceesaantii yareed gowracay waxooga qabandida cajiineeye barakadii iyo mucjizada ay ka daahirtay gaajadaa daran way dhici jirto saxaabadu ay aad oga maarata ildaraadaan mararka qaar markay muhimaadka ku jiraan waxna maarata aynan haysanin aad iyo aad bay baahida ugu daraan jirtay qaala abu ciisa wuxuu yidhi hada xadiiun gariib min xadiid abi dalxata gariib wey laa nacrifu ma garanay ila min hada lwajh dariiqaan heenan ku naqaano ma laha wamacnaa qawlihi warafacnaa can butuunina calooshaanada waxaan ka kor yeelnay can xajarinta kaana axaduhum macnaheeda waxaa weeye kaana axaduhum midkood wuxuu aha yashuddu fii batnihi lxajara caloosha wuxuu ku adkaysan jiray dhagax min aljuhdi mashaqada iyo dhibka haysta wadacfi tabardarida ku haysata alladii bihi asaga haysato min aljuuci min ajli ljuuci gaajo darteed uu la dhibaataysan yahay oo la tabardaran yahay qaala xadathana maxamed bn ismaaciil qaala xadathana aadam bn abi iyaas qaala xadathana shaybaan abu mucaawiyat naxw qaala xadathana cabdilmalik ibn cumayr can abi salama bn cabdiraxmaan can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu qaala kharaja rasuulu llahi sala allah alay sl nabigaa baxay fii saacatin xilli buu nabigu soo baxay gurigiisii buu ka baxay xilli laa yakhruju fiiha uuna bixi jirin xilli uuna bixi jirin looga baranin umuu nabigu banaanka u baxay walaa yalqaahu fiiha axadun qafna lama kulmayninoo wax ruuxoo markaa u taagan oo nabiga la qaabilayana ma jirin
faataahu abu bakr baa u yimid nabiga calayhi salaam oo banaanka jooga faqaala nabiga wuxuu yidhi maa jaa bika maxaa ku keenay ya abaa bakr xilligan maxaa kusoo bixiyey qaala wuxuu yidhi kharajtu waxaan usoo baxay alqaa rasuul allah inaan nabiga ilaahay bal la kulma calayhi salaam wa andura fii wajhi wejigiisa sharafta badnaa aan fiiriyo wa tasliima caleyh aan salaamo maxabadaa nabiga u qabay nabiga bal aad aragtid ayaan lahaa weligii meel kama aadin fi safari walxadar inta nabiga calayhi salaam mashaahid iyo ghazawaadka o dhan ba abubakr uu la socday shahida almashaahida kullaha marka maca dalika jeceelkiisa iyo maxabada u qaba ma dhammaanayso nabiga inaan arko oo wejigiisa oon salaamaan rabay falam yalbath ma sii nagaanin nabiga abubakr in wax yar isla taagan yihiin an jaa cumaru cumar inuu yimidba wax badan maba sii maqnayn cumar waaba joogaa cumarna waa kan faqaala wuxuu yidhi nabiga maa jaa bika ya cumar cumar adna maxaa ku keenay oo usoo baxday qaala wuxuu yidhi aljuucu ya rasuul allah nabi allow gaaja ay soo saartay qaala sala allah alay slam wuxuu yidhi wa ana qad wajadtu waxaan dareemay bacda dalika gaajada aad sheegaysa wax kamid anagoo dareensanahay way ahaysaa fandaliquu ina kiciya bal ilaa manzili abilhaytham ibni tayhaan alansaari guriga ninkaasi aan aadni ama fandalaquu way tageen ilaa manzili abilhaytham ibni tayhaan alansaari ninkaa gurigiisay aadeen saxaabi qiimo badan buu ahaa wa kaana wuxuu aha rajulan nin kaiira nakri geetimireed badan beer timiru lahaa washaayi wa kaiir shaayi arina waa lahaa walam yakun lahu khadam wax u shaqeeyo oo ariga u dhaqa ama beerta u fala ama usoo dhaamiyana muuna lahayn oo xooggiisa isagaa maalan jiray oo beertiisa falan biyihii dhaamin falam yajiduuhu kol hadduuna wax u khaadimo jirin isagaa shaqadii ku maqan guriga haddii la imaaday lam yajiduuhu guriga kamaynan helin waa ka maqan yahay faqaaluu liimraatii xaaskiisii bay waxay weydiiyeen oo ku dhaheen ayna saaxibuki awa ninkaadii qaalad waxay tihi indalaqa waa tegay yastacdibu lanaa almaaa inuu biyo macaan noo soo dhaamiyo waa noo arooray ceelasha madiina qaar baa biyo khalaalaa kuwo meelo qaar la aadi jiray oo biyo macaana way jireen marka yastacdibu ee yatlubu lanaa almaa alcadb biyo macaan buu noo dalbay oo noogu arooray falam yalbathuu mayna sii nagaanin wax badan ayadana way fadhiisiisay gurigii bay fadhiisteen waa bannaan tahay kol haddii jamaacana ay yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam way waxan iyo abubakar iyo cumar guud ahaan dadka kale ajnabiga ah haddii jamaaco yihiin bay qaar culimada leeyihin wax dhibaataa mala way ka qaataan falam yalbathuu mayna nagaanin an jaa abulhaytham ninkii reerka lahaa waa yimid biqirbatin sibraar biyo ah yazcubuhaa isagoo xumbaarsan sibraar biyaha isagoo xumbaarsan ayuu keenay fawadacaha markaasuu dhigtay gurigii meeshii buu dhigtay waa dejiyey uma jaa nabigii iyo abubakar iyo cumar baaba fadhiyaba golihii ardaagii nabiga faraxii buu kala badbatay uma jaa waa yimi yaltazimu asagoo isku duubaya annabiya sala allahu alayh wasalam wayufdihi ku furanaya biaabihi aabihiis iyagoo ummi hooyadiis aabbahay hooyada lagugu furay wixii dhiba ku soo gaari lahaa aabbahay hooyada ha ku dhacaano ilahay hanoo kaa badbaadiya rasuul allah intuu yidhi yuu isku duubay magaaladaa la wada joogaa masjidkaa lagula tukadaa oo waa nabiga calayh salatu wasalaam laakiin haddana gurigiisiiba sooma imaanin baraka ooma dhimana barakada iyo maxabada iyo jeceelka qadarin badan bay u tahay in nabi maxamed gurigiisa u tegey uma indalaqa markaasuu isla markiibuu tegay indalaqa bihim waa kaxeeyey ilaa xadiiqatii beertiisii buu geeday beer timiraadii oo hawd ah oo geedihii timirtaha iyo rucubta ay ka ladlaado fabasada allahum wuxuu u fidiyey bisaadan gogol buu beerti dhexdeedii ayuu u fidiyey meel qabow uma indalaqa markaasuu tagay ilaa nakhlatin geed timiraad ayuu aaday geedihii timirtaha iyo rucubta iyo timirta ay raaraceen ayuu mid intuu u qastay buu fajaa wuxuu la yimid biqinwin rucub fawadacahu waa soo dejiyey hortoodu dejiyey qinwigu waa rucubta timirtu marka timirtaa rucubteedu hal mar ma wada bislaadaan midbaa usoo horbaxdoo timir sii maraysa midbaa rodab maraysa midbaa busri maraysa midbaa balax maraysa marka intaasba waa ku raaracaan fawadacahu faqaala nabiyu sal slam baa wuxuu yidhi afalaa tanaqayta lana maxaad noogu soo guri weyday min rudabihi rodabkiisa inta rodabka ah maxaad noogu soo guri weyday oo si gaara noogu doori weyday buu yidhi falaa tanaqayta lana maxaad noogu soo aruurin weyday oo noogu doori weyday min rudabihi rodabkiisa ood geedkao dhan usoo goysay ila waa sida maaragtay mooska oo kale laanta dhan iska wadsamo saasoo kale waa timirtu faqaala yaa rasuula ninkii wuxuu yihi rasuul allah inii aridtu waxaan damcaon doonay an takhtaaruu calaa kayfikum inaa idinka biraaxa aad sidaad rabta u kala doorataan oo ninkii timir raba bislaatay kii rodab raba kii busri raba hadda soo baxo iyo calool kii raba balxi hadda soo baxaya intaba inaad doordoorataan baan jeclaystay aw takhayaruu min rudabihi wa busrihi rodabkiisa iyo busrigiisa inaad doordoorataan oo nin walba midka uu jeclaado uu soo qaataad jeclaaday faakaluu way cuneen washaribuu bihi macaanaana way cabeen min dalika almaa biyihii uu keenay faqaala nabiy sala allah alay slam ba wuxuu yidhi haadaa waxaan aan maanta hellay waladii nafsii biyadihi ilaahay baa ku dhaartee naftayda gacantiisa ay ku jirtee min annaciimi bay ka mid tahay nicmadii alladii tusaaluunana weydiin doono tusaaluun canhu xaggiisa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo nicmada la su-aali doono ayay ka mid tahay dhillun baaridun hoos qabow
والرطب iyo رطب طيب معان iyo وماء بارد قبو ونعمة فربضة ثم لا تسألون يومئذ على النعيم أسدري شري وإلى السؤال دونا شكري ما مركا لغاربا هذا لو مركا تعداد النعم نعمويك لترين أيو أي كجرتها يلا دي وحاسوكم مجري إلهي ليدر سبحانه مركا شكري إذا على ماضي فانطلق أبو الهيثم واتقي انت كافتو من وماها ولي أساقو مقاري ميشو الربي انطلق أبو الهيثم تك يصنع الله من أصم طعام الراشد انت وهفافر الله هفافره markay martida ku imaadaan xogaa timirta iyo juuska iyo sharaabka iyo shaaha loo sii hormarin ilaa qadada waqti bay qaadan iyo cunto karinta dacaam uu sameeyo dhaqaaqay faqala nabiga alayhi salaam baa wuxuu yiri la tadbahanna waan ku arkaa mididu la boday la tadbahanna ha gawricin dhaata darrin neef darar u saaxiibo irmaan ha gawricin ninkan waa arkaa inuu jubaysan yahay meesha uu marayo nabiga alayhi salaam Abu Bakar iyo Umar ba meesha fadhiya qiimo badan khalqigan wixii adduunka imaad ku ugu khayr badnaa la tadbahanna ha gawricin dhaata darrin iska ilaa neef irmaan هنو جورعين فذهب الله وحو جورعين عناقا عيسان أو مسجد يرجير نيلا نافك نيلا يركع وهرب معايا نيلا جورعين فأتاهم بها هرب كوب بسل أيو أكر الصهر جي فأكلوه بكعون فقال صلى الله عليه وسلم بوحير هل لك خادم أبال وين بنك الجري النبي قال وحلوية قال إنه أبالك أو قرط قفك أبالو قلا هل لك خادم نيوضون بأرد يا خادم مريض مياه قال الله مايا قال فإذا أتانا سبي haddayna noo imaadaan dad la soo qafaashay gaala la kari waayay diinta inay qaataan oo la edbinaya hadday noo imaadaan faatina na soo booqo noo imow fawtiya nabiga alayhi salaam baa waxaa loo keenay birasayna laba min baa loo keenay oo laysa macu mathaalis misaxa ku jira laba yaa xoog ugu soo qabtay nabiga loo keenay mid saddexaad lama socdo laba bas weeyay gacanta soo gashay labadii baro inuu mid siiyo abaalkii wanaag ninka uu galay faataahu abu al-haytham ya nabigu u yimid markuu maqlay laba neef laba adoon baa la keenay faqala nabiga sallallahu alayhi wasallam baa wuxuu yiri اختر كلا دور منهما لبدا مد كلا رتو دور فقال وحي يا رسول الله اختر لي ادي اي دور ما يعني دور ما هي ادي مد كلا تا اي دور فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحي ان المستشار قفك مستشار كلي يراده لا تشدو مؤتمن هو قف الامني قفك ترهب الى الطريق واد امنتي تلبيسه قادن marka taladiisa ka hoos dhicin meesha uu wanaanaysa ugu fiican kula tali in المستشار مؤتمن قف الامني وي قفك الله آمننا وإنه أمانتي وحي الوامن وكسبه خذ هذا بير هذا إلى تشطي متكن قاضو فإني رأيته وحامك يسلى سوى تكره كان سوى دين الإسلامي وتكبر الركاية كان كحيسوير صلاة دفيري قفك دو صلاة هجاجية وحي كان له هجاجين واستوصي به وحان أقدر دارتها معروفة هناك لأنك هناك وكلا دقن هاللين وهالنبن فانطلق أبو الهيثم مالتك إلى امرأتي حاسك يسيبه يا دونكي فأخبرها وحنا أشاعي بقول الرسول الله فرنت النبي عليه السلام ويري خير دردارا وكور هاي نقاس فقالت امرأته قبل قيمة بدن عقل بدن ديانة دين تدي أخلاق ذي فيري فقالت امرأته حيتري ما أنت ببالغ سؤالكم بين معروف وناق نكاس كردقا ما أنت متهد نك اللي يرى أبو الهيثم ببالغ متجاري حتى مجاري كرتيد ماشي النبي عليه السلام معروف كل شيء جاي مجاري كرتيد ببالغ حقا ما قال فيه النبي وحو النبي عليه السلام ودونا يري حق نمديس ماشي وحقه ما قاري كرتادو الا بان تعتقه ان حريصات من رافي سنين هر الله وجه الى حريصات حرب كدغتو ام با كو قاري كرتايه نينكن ادون ka dhigan قال وحو الى سونا فهو عتيق هذا رسايتري فهو عتيق معتوق كل حريوي وان حريبي انكي اسلام مركب الحريه فقال صلى الله عليه وسلم وحو ان الله اله ما الله شيء النبي الله شيء markaas wuxuu yiri gabadhan fiiri bidana xasana وبدانا وناسا قبضا لين كذي بيكون كربتان خير كي وناجي شرفته إن الله إلهي ونبي إن الله الله لم يبعث نبي مصادر ولا خليفة من خليفة ومضحى مصادر إلا وله بطانتان نكستو أم النبي أم مضحى لوكو حد بوليه هاي أو مارت أصحابه بطانة كوح تأمره وحي أمر ليس بالمعروف ولاك وتنهى عن المنكر حمان تكريبي وبطانة كوحنا لا تألوه كجاب ميسو خبال اللقيو لقويه iyo fasaad oo meel daba taagan yihiin ninkii madaxda meeshii dhiiraan warmada wax u qabo oo dad baahan baa jiray gaad oo dhibaatada meesha ka soo yeedhay ka warhay oo dadka u tur oo u naxariiso oo cadaalad sameey way dhiirayeen waxa weeyaan isku dir iyo maanta chance haysatay ka faa'iideyso uma la dhiho lugooyo iyo fasaad iyo xaraan la cunsiyo um bal u sitirtirsin waman yuqa bidanata suuq qofki la taliyaal xun ilaahay ka badbaadiya faqad uqiya wala badbaadiya ninkaas nasiib leh أزو النبي صلى الله عليه وسلم marka gabadhaasi bidaana xaleexa ninkeedu waxay u noqotay bidaana wanaagsan
halkaas wanaagsan qiimaha badan bay ninkeedii ayay u hogaamisay. قال حدثنا عمر بن إسماعيل قال حدثنا بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص بن مقرأ يقول له إني أنا لأول رجل منك أبوه ريبانه أو حراقة دادية الدم ليك في سبيل الله إلهي ودريس جدك إلهي الجهاد منك أبوه ريبانه على ليك الدادية بانه وإني لأول رجل منك أبوه ريبانه ورحماقنا بسهم الله في سبيل الله يكون قروا على توكته لقد رأيتني وحانس أركي أون قرب له يعني براحش وصامر إيه كفاحي جهادك مكالله أغزو أنا ودولا في العصابة كوح من أصحاب محمد صحابة النبي كميدا عليه الصلاة والسلام أن الله سعودان قرمايا ما نأكل أنعنين إلا ورق الشجر جيد على انتيس إيه والحبلة جيد كحبلة اللي هذا أبقى إيه وحاز أبقى إيه قرعة أبقى دي سأجان عنين لكن واحد عنوينه حتى تقرحت وحاق رحلي أشداقنا قول الله نجي بقى قرحي وهذا بقى القلب سد أبقى كل وأنجن أياد يقفك عني مرك قول الله بنا الدلاعي يافكي وإن أحد رامد كانوا لا يضعوا وحدجين هدول طبعا حاجة بتو وحاجة جودة شو معه لا يضعوا وحدجي كما تضع الشاة نافك عليك أي والبعير جيرة صارت أنجينا ودقوا كله أيوديها يا محاجة الواحد يعون الجيران جير يعرف عنايو أبقى يوحنا جينا وحي مودنا دقة سونا وأصبحت بنو أسد أنا قاعدين تهير كلا مري نفي النفيس بكون بحني باهرة در الله صام مري إساك أصبحت وحيوة بريسة بنو أسد لمن قال بنو أسد كوفدقن يعزروني إن عيبان يعني يقول حنانا يان في الدين دينتي وإليه لا يحسن يصلي بعدين لا يحسن يصلي صلاة حتى ما يجي يقانو صلاة ما يقان عدالة مصر يوسف أو حنا وما قيبيو جهاد كمرك الله بحنا ويسكت بالريدي مويانه عيدا كي يدقالك ما قالوا وحاسد دعايات بيرة نينكي ساس هاي جيسيها شجاعها مقدامكها أي دعايات كفافيين وعيالها مركز دعايات دعاء dadka ahlu khayrka ama ahlu cilmiga ama ahlu fadliga lagu furo waa waxa weeyaan waa shar iyo muxuu ahaa fasaad dhibaatadeeduna aad bay u badan tahay heerka markii la gaaray oo dacaayada ay wasocotay magaalada Kuufa oo dhan ay wada martay Umar ibn Khattab warkii la gaarsiiyay Madiina jooga waa azilay shaqadii uu ka saaray meeshii sir Ammar ibn Yasir ayuu fariisiyay haduu u yeelo yiri bal waran say u tukataana wuxuu yiri salaada nabiga kama nusqaamiyay labada ragcadood horena waan dheereeyaa labada dambana waan gaabiyaa sidaas aan ku wadaabiyo markaas wuxuu yiri Abu Isxaaq kunyada Sacd way saan baan u maleynayay nimanka fawdadooda iyo fitanta yar si badanin baan kaaga qaaday xumaan iyo maarta waxaan tuhmaan ku qabo ma jirto ogow markuu dhimanaya Umar radiyallahu anhu dadku dardaarmay buu kamid ahaa oo dhigi jiray Sacd khiyaano iyo xumaan oo ma azilan shaqada hadii loo dhiibo mas'uuliyadda iyo xilka ninkaas ehel buu yahay oo ummadda dhan buu hogaan u noqon karaa hadii kale ninkii loo dhiibo la tashiya ka dhigto oo la taliyaha ka dhigto sashara ka dhigto marka wuxuu leeyahay nimankaasi reer banu asada maanta aniga igu ceebeenayo ta'ziiraya oo idbinaya diinta darteed laqad khibtu waan hoogay wa khasirtu waan khasaaray idan say sheegay hadayba jirto wadalla amali amalkaygana waa dhumay marka waxyaalaha wanaag uu soo diinta u soo qabtay uu ka sheekeeyay madxi iyo amaan iyo faan kama aha waxa weeyaan maqaamu dhabbi an nafsi wa irdihi waa meeshan waa meel uu naftiisa iyo irdigiisa ayuu difaacaya maanta hadii lagu soo weeraro oo dacaayadii waxaan jiray lagu sheego inaad makaanadaada iyo manziladaada aad banaan ka dhigto adille iyo cadeyna aad miiska soo saarto oo dadka ayaga dacaayada wada aad waxay sheegayaan aad beeriso xaq baad u leedahay way difaaci kartaa marka waxa ay wanaaga sheegtana ma kaaba noqonayso manni iyo riyaa iyo sumcana kaaba noqonayso marka likulli maqaamin maqaal weeyaan oo maqaamkan waa maqaal difaac weeyaan oo isdifaacaya قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن حمير وشويسا أبا رقاد شميس كاس قال وحيدين بعث عمر بن الخطاب وحود لي عتبة بن غزوان وهو جامية نلقى أرض السواد اللي هذا الله دري عراق إنه صافرته فارسنا وكفوجيه رقعة وكفوجيه ماشي دقيقين وقال وحيري انطلق أرتك عتبة بن غزوان وصعا أنت أديك ومن معك عيلا كهذا كل الصعدة حتى إذا كنتم مركز قاعدان في أقصى بلاد العرب عربت بلد كودي يقول كودا ماشي أوقفك مركز قاعدان واحد عربي ماشي كله ليه ماشي أوقفك مركز قاعدان وأدنى بلاد العجم كون عربت هنا عجم كيرير فارس وكلاه فرس دول كودا ماشي أوقول ده ولا جقله مركز قاعدان أو أي حدود كودي أفكار صارتان عربنا كودا بحضان فاقبلوا وحاد قابشان ماشي عيدا halka ayada qaabil oo daga oo xuduud haynin noqoto iyo dhufeys aad ka wardiyeysaan islaamka faqbalu
حتى إذا كانوا مركي جوغان مركا تا waxa weeyaan wala dhihi kara حتى إذا كنتم في أقصى البلاد ودرع في الجنة ماشي دغ مركا تنفاق مرودك وبلابنيسا فأقبلوا ويقابلين حتى إذا كانوا بالمربد أيضا ولا dhihi kara مربد مركي جوغان مربد dhulka meesha karoorka iyo timirta iyo la dhiga iyo mirbad la dhaha marka ay marayaan meesha mirbadka ah waa meel yar taag oo angegan oo dhagaxyo leh wajadu waxay heleen markay mirbad tageen hadal kadaan ayay heleen kadaan kana heleen kadaanku waa meel taaga oo dhagaxyo jajabaysa leh faqaalu waxay dhan ma haadihi maxay tahay meesha dhagaxyaha burburka ay yaalaan qaalu waxay dhan haadihi albasra basra la dhaha magaceeda oo meesha iyo midabkan nooc dhagaxana basra la dhaha marka magaaladii basra ee Ciraaq wali lama asaasin oo cutbahana asaasi doona dhulka la dhigi jiray meeshaas noocaas ay kadaanka ayaa basra la dhigi jiray هذه البصرة بصرة لها فصاروا ويسعدين حتى إذا برقوا مركي قارين حيال الجسري بونددا قابل كذا جسري الصغير يرى بونددا وبيجا نهر الدجلة اللي يراهو بونددا اللي وجد به وجيرية خشب يوحي يساري جيرانه وبيجا كوجد بجيرين عرضا بونددا أيها مركي مرة أيها وبيجا ير مكوكولي وحكي احترازها يا ماشي إسكان درانا وبيجا وين وكان نقطة بغداد كياله جسر الكبير باجراء بغداد مرة كنا وحوي الدجلة ونهر الدجلة يوم مرة يا يوم ماشي هذا جسر صغير وي مركي قارين يا فقالوا وحيلنا ها هنا هلكن يا أمرت من نفرين دكتان ماشي أنا نفرين وماشي أمير المؤمنين ولا هدجة هلك ويان فنزلوا ماشي بيدجين فذكروا الحديث بدول حديث كبير أسوأ غير كشاكيين إذ شاهدك واقع فقال عتبة بن غزوان بوحيري لقد رأيتني وحانس أركيون قرنبي وإني أنا والله سابع سبعة تضمن مثل تضمن يكوه مع الرسول الله نبينا الله صلى الله عليه وسلم تضمن آنهي ما لنا طعام راشين أنا هيسنين إلا ورق الشجر جينها عرين تودم ويروحان عنبا أنا هيسنين حتى تقرحت أشداقنا إلى قول الله أنا يقل كان وكدل دلاعي فالتقطت وحان قل كهلي التقطت وحان قل كهلوضي بردة معوسيا مرة مكاسان قسمتها قيمية مرضي بين أنيق وبين سعد وقاسي هذا سو شيغيني يا أنيق كلا دلاعسني فما منا نقمن معها من أولئك السبعة تضبطها النبي عليه السلام واتقي عليه السلام تضبطي كله فتوحاتك يا غنائمته يا خيراتك فرها بدن يا دولة المسلمين تو ميل وين قاعد سو غاري تضبطها النبي كمد ما حد قف إلا وهو أمير مصر مقاله أمير كيهي من الأمصار مقاله يكمده مقاله يكمده ما أنت ما يحكيه أنت رجع أنا صامري مراحشاس يهلجن كاس على صامري باهي قاعد درام صامري نيوم والله ما أنت هو أمير ها مقاله ما يحكيه ستجربون وحات تجابين دونتان الأمراء مدحنا بعدنا قداش أنا مدح ما نهين نين والبور رأي كمان ما تمدحوي وحو قبتينا والله أركا ورعني ماذا يدين يا إلالين وشريعة دورة يا حوالها سوء إلالين ناركتين مدحنا قدام بيسات تجابين دونتان بحير ليسوا مثلنا في الديانة والإعراض عن المال على الدنيا بوليه أنا كلا معها markii diinta laga hadlayo diyaanada iyo diin iyo akhlaaq iyo sida xoolaha dadweynaha ay iskaga ilaaliyaan ma noqon doonaan madaxda gadaasha ka imaato dad waxay noqon doonaan intihaasiyiin ah oo xoolaha dadka gacantooda markay soo gashaba anaba iskale halkaas tag ayagii xoolihii dadweynaha laga barbariyo oo wasaado loo samaysan oo waraaqo loo qoran oo odayaal loo qaadan oo la weydiisan oo xagga laga soo geli oo xoolihii dadka ay lahaayeen xoolaha dadku ayaga inay leeyihiin aad mooday dabada gashanayaan لأنه عصا إيمان دون وكود هذا ويجرا وبدنيه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا الروح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيري لقد أخفت ولي عبسيي في الله إله درتي بلي عبسيي ومركو النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله توحيد كتبك أوية يا الرسالة أو أجد الشرك يا كفر يا قال لماذا النبي عليه السلام عقد شغلين إيه محوها عمو تشقين إيه حي في اللقادة شرقال بالله بالله يا مكر يا نجار بدن ولا عبسية في الله وما يخاف وحنا بقي إن حد قفنا قف كراع عبصرة وحنا سجرين نقول برهر كيسي عد يسمى كجرا وحمر كاسي الله جيسرا ما جرته أنا مركا توش كان اللي وهي يو دعاية أفحومية دبات اللي وهي يبي ولقد أوذيت والله يدبي في الله إله درتيس وما يؤذى أحد وحنا قفنا الله دبن قف الله بالدين تنبي محمد أبوه عليه السلام ولقد أطت علي وحي صامرتي 30 صدا من بين الليلة ويوم هبين إيام مالين اسكو دركونا صدا عدمال أما عشمال أي النبي عليه السلام صامرتي بيري
وحيون يسقنان أنيق إيو ولبلال بن الرباح طعام راشين أنا هيسن يأكله عنه ذو كبد بال وحو صاحبه النولاء إلا شيء وحموينه يواريه وكسو قريب ابط بلال كلكيتسو كسو قريب موينه صدن عدما أما الشو أيان جوجني بيقولي هاي أوران وح أفكا أنا قلنا وح بني آدم كنا ولان كان أما وح بير صاحبه أنا هيسن إن يروا بلال كلكيش ما وصل قريب موينه وح حنو كيري كرم ملها هذا ويبقى فيرنا إياه سنة حديث الروح وكجرا نكال إلى هذا مركز روح روان ضعيف حديث الروح بن أبي أسلم الحاتم البصري قاس لكن حديث وكيع يا عبد السمد يا عفان رقاصة متابعين يا مسند أحمد بكسوين هاي سوى طرق كلا دوان له كأصل قولي هاي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة بن الدعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده أكتيزا كمصا كل من قضاء ولا عشاء من خبز كبسي ولحم هيب لقسميه إلا على ضفف مرتين وحلقنا يا موين يعني قضاء iyo casho oo labadaba kibis iyo hilib uu helo ma dhicin nabiga kaleey salaatu wasalaam inay marti iyo dad marti sooraayay iyo marti ay u timaado gacanta la gashado qala abdullah wuxuu yiri qala bacdhum qaarkood baa waxay dhaheen huwa kathratul aydi waxa laga wada gacmaha fara badan dad fara badan oo gacmo badan weelkii wada gelinayo la cuno inuu la gashado mooyeen قال حدثنا عبد بن حميد وصامر حديثا قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن الله محمد بن عبد الرحمن المغيرة عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال وحيري كان عبد الرحمن بن عوف وحوها لنا أنك جليسا إننا فريستا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد 10 المبشرين في الجنة جنة ذلك له بشاريه وكمدها أثرياء صحابة إذا حولها إلهي سيئي يحولها وضنا خير كأوذي يكسدوها وأنا فريسا جري وكان وحوها عبد الرحمن نعم الجليس من dad la fariista midka oo bal la fariista ka ugu wanaagsan buu haayo la fadhigiisa faa'iido diineed iyo mid adduunba waa ka heli jiray wa inna wasagu inqalaba bina wa nakaxay daata yawm maalin buu nakaxay gurigiisi hatta ida dakhalna markaan galay bayta gurigiisi dakhal horay buu sii galay oo faqtasala waa soo qabaystay isquli intuu galay buu soo qabaystay thumma kharaja waa soo baxay wa utina waxaana noo keenay bisahfatin saxan iyo xeero fiha khubzun kibis iyo walaxm hilib kibis iyo hilib saxan ku jirto yaana noo keenay falama wudacad markii la dhigay dhaxdaanadii bakaa cabdiraxmaan ibn cawf ooyay faqultu waxaan ya aba muhammad kunyadiisi way ma yubkiika maxaa ka ooysiyo loo ooyday waa xasuus iyo guhaad way faqala wuxuu yiri halaka rasuulullah nabiga calayhi salaam waa dhintay يعني قف دمشق هلك والسكدي كراه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك يعني كل انتبه له جيدا حتى إذا هلك الرسول الله واد انتي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو السقي وأهل بيتي ريركي سيوم كدرجين من خبز الشعير اسكندر برك يحنضبه قمندي لقسمي بر لقسمي سو كدرجين فلا قمندي لقسمي كبس لقسمي فلا أرانا بلاهي اسكما أرجنا أخرنا إن نود بدقي لما هو خير لنا وحي خير كنوها إن نود بدقي ونوضم بيه ملين ما هي بير وحي أنا خير نوها إن آخر كل لين إن نود بدقي وماركو إن نسود الدشيل ونوار كبير السند كحديث ضعيف ويان سند كحديث ضعيف ونوفل بن إياس كأيو جهالة كسوغان لكن حديث أصل كيس البخاري بيقول هايو يكسوغي هايو مرجع عن الله صادق واكيد بيجري مصعب بن عمير يا بنتي waxaan ku kafanaan weynay mar yar baan helay haddaan qaarka hore ka saarana lugaha banaanaan haddaan lugaha ka saarana madaxa banaanaan nabiga calayhi salaam wuxuu qaarka dambe ka saara qaarka hore ka saara lugahana idkhil iyo geeday iyo nagaan iyo caws ka saara intuu yiri buu cuntadii asagoo sooman afurkii uu ka booday iskaga cararay oo hindarteed waas adilka saxiixa jira wuxuu zaama jaa xisaara fi sidr rasuulillah nabiga daaliisa calayhi salaatu wasalaam daada nabiga meequu jiray markuu dhimanayay 63 يا مرت مشهور وراجحة 63 وذاك دونتا 60 وذاك دونتا ما كان 63 حاسة يا راجحة كوا كلنا كوا كسر قريبة يكون كسر زيادي بشاد حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ما كنا نبي كنا جاء 13 سنة صدق هي 8 سنة أنت بيعتضي الرسالة النبي الله دي من فرت السنة وسيجوي صدق هي 8 النبي الرسول هذا الوضري كنتني صدق جرب ما كنت قال النبي عليه السلام يوحى إليه الله وحيونا صدق هي 8 سنة وحي ما كسعودي
وبالمدينة مدينة 10 طبعا سنة هذه الاسكو دروا توفي والله أفصل النبي وهو ابن 63 أصور لحدا يسدح جراء أيها النبي عليه السلام إلهي أفصدي أو بنتي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه وحوم لمعاوية ويخطب الخطبين. معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين خطبة سوى أتاجر من بركة وقال يري مات الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وادنتي وهو ابن 63 أسوى لحدا يسدح جرا وأبو بكر روادنتي وعمر روادنتين أبو بكر روادنتي لحدا يسدح عمر روادنتي لحدا يسدح اسكو أنت اسكو دنتين وأنا أنيقا خطبين يا ابن 63 لحدا يسدح ما جرا هذا marka wuxuu isgarwaaqsiinaya Abu Bakar nabiga iyo Abu Bakar iyo Umar meesha ku dhinteen inuu marayo laakiin ma ku dhintay maya ma dhiman ila 80 buu gaaray Muawiya radiyallahu anhu. حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وادنت وهو ابن 63 أسوأ لحدا إياه سدح جراه سنة من سنة يعني سدح زوجره. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال وحيدا حدثنا إسماعيل بن عرية بن مقسم عن خالد الحذاء بن مهران قال أنبانا عمار مولى ابن هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وصله وهو ابن 65 أسوأ لحدا يشنجره. رواية أيضا ابن عباس وشاد ويان شنية لحدا ما هي وحاويان لحدا يسدح ويان وحي رواية أيضا وصحيح لك وشات سندهم بصحيح وطاي لكن مخالفة الوهستها. قال حدثنا معاذ بن بشار ومحمد بن آبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتاد عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض والله أفصده وهو ابن 65 أسوي لحدا يشنجره. قال أبو عيسى وحجري ودغفل منك دغفل اللي يراهو ابن حنظلة لا نعرف له أمر نقانه سماعا أنه مقري من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي الرجل نوين بوها وقت النبي عليه السلام لكن النبي إنه كم مقري ما مقل وما نهلين وهو ير شاد نمد عديرة إنه شاد هاي لكن النبي أقول له إن بدل الجوج عليه السلام وحي شيئين لحد سدح. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الراي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع يقول كان الرسول الله نبي عليه السلام وحوها ليس بطويل البائن مطلر أو باين وتجي مهن يعني دير كيس وحضاف يا مهن ولا بالقصير بتجابا ما مهن متردد أصلا نقلاص جري نحن حاد بها النبي عليه الصلاة والسلام ربع من الرجال ولا بالأبيض الأمهقي متعد أو حيشة ربيه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عد سيدا عدان كان عدوا كلام مودو إنه ليجي بكنا ما ولا بالآدمي مذونا ما هي النبي عليه السلام مذو حجين آدم كحاول مارين كمذو حجين كان أسمر بوها وعدين جدود لعبسية عدين هي جدود اسكت دريب النبي كها ومثل كأوقرح بدن ولا بالجعدي متباع ما هي النبي عليه السلام القطدي أو شريرة وتميز اسكت نقدان ولا بالسبطي مد بسله تميز أي بسقولي تاير ما هي كلا عن الراية ما هي رسولك عليه السلام رجل بوها تميز وإلى حديهن بعثه الله تعالى إلهي بصابحه النبي على الرأس 40 سنة أفرت السنة مركي ولا ماطي أي إلهي النبي الرسول كان يقول صاري فأقام بمكة مكة وكنا قال 10 سنين 8 سنة كسر يجيب وكبعي صدح عليه سنة كريبي وصدح يطعم بيهد وبالمدينة 10 سنين تبصروا النبي الجوغي وتوفاه الله إلهي وحوه أفصلي على الرأس 60 سنة لحدا سنة مركي ولا ماطي إلهي النبي أفصلي وليس في رأسه والحال ليس في رأسه مدحيسي ولحيتي قركيس هذه اللي اسكدروا ونا لحينا نقول 20 شعرة لباتن حبة تنها بيضاعت لباتن حبة ما قارن تميز النبي لحية رسالة حبة نقول انتي لباتن حبة ما قارن تميها عضالي الروبي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. رواية مركا أنس أيضنا ورواية صحيحة لكن وحاسقناتي أصلا لفتري كسقناتي من رواية مسلم في صحيح مسلم حقصقا رواية الجمهور تأكل تغيره نبي سدح هي اللحدة إنه سدح هي اللحدة وطبعا هي سدحنا وحوج وجاي مكة أفرتك كور رئيسي هي طبعا صار لحدة سدح حسنا يقول انت صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه حديث كهر وحلا ميدا متابعة والله أعلم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.